oo kaleeto inkastoo aan khalad aan anigu aan fahmay ay culimadu ay mataqaanaa waqti hore ay bilaabi lahayn laakiin qadar allah maa shaa facal. waxaa inoo bilaabanaya muxaadaradeeni almaxaasin fi lislaam ama wanaagga islaamka oo inoo gelayaan laba sheekh oo culimadeeni ka mid ah oo taqaaniin sheekh maxamuud sheekh xasan abu dalxa iyo sheekh cabdullaahi xambali. culamaa ullah haddaad joogtaan weli soo taabto xayaakum ullah. waxaa inoo bilaabaya muxaadarada oo noo gudagelaya insha allah sheekh cabdullaahi xambali ayaa noo bilaabaya insha allah mawduuca insha allah kabacdina halkaas baynu kasii wadayna insha allah. sheekh cabdullaahi xambali ma joogtaa iyo sheekh abu dalxa haddaa codkayga maqaysaan weli soo taabto xayaakum ullah. in yar isuga axbaab fillah inta culimada haa soo qabsada xayaakum ullah. asalaamu calaykum waraxmatullah. insha allah walaalaha qoraalka oo furan yahay laakiin aan qoraalkeena dhowrna xayaakum ullah. tafadal sheekh cabdullaahi xambali. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة haddii allah awoodda lihi uu noo ogolaado waxaa marti inoo ah shaykhuna alfaadil sheekh maxamuud abu طalxa. wuxuuse un iga codsaday in mowduuca xalqada ama muxaadaradu ku saabsan tahay maadaama uu mowduuc weyn yahay in bal aan isla fiirinno oo aan la mushaarakeeyo. waxaan aniga iyo sheekha isku waafaqnay in mowduuca waa mowduuc weyn oo ballaaran kutub badanna laga alifay nadawaad iyo xalaqooyin badanna laga sameeyey. markaan fiirfiirinnay waxaa aada noola qurux badnaaday mowduucuu qoray wadaad dhintay allah u naxariistee kitaabkiisana midigta allah ka siiyey oo la yidhaahdo cabdulcasiis ibnu moxamed assulaymaan oo risaalo yar ka sameeyo 50 safxadood ah. risaalada ciwaankeeda waxaa la yidhaahdaa min maxaasini addiin alislaamiy. marka horta min baabi alamaana alcilmiya aniga iyo sheekha waxaan sheegi doonoo dhan inta badan risaaladaasaan ka soo xigannay sidaa ha loola socdo. qofkii raba inuu ka dhergo oo si fiican uga bogto risaaladaasu dib ugu laaban karaa. intaa kadib walaalayaal addiinu lislaamiy diinteennan islaamka waxay koobtay
waxay koobtay maxaasin oo dhan ereygan maxaasin waa af carabi laakiin waxaa laga wadaa min alxusni baa laga keeno waa waxa qofka uu istixsaansado ama uu wanaagsado ama la qurux badnaada ayaa la yidhaahdaa shaygaasi waa shay wanaag badan marka islaamku kulligii waa maxaasin meel la tuurana ma leh meel walba meesha kale waa ka macaan tahay kulligiina waa fadaa'il iyo qiyam aada u sarreeya macnaha waxaa laga faa'iidaysanayaa qowlu rabbina jalla sha'nuh alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina ayaa laga faa'iidaysanayaa aayaddii soo gunaanaday waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala taqriiban ee nebi moxamed iyo inta raacsan ee atbaacdiisaba allaha nagu dare lagula hadlay ilaahayna uu ku yidhi maantaan idiin dhammaystiray diintiinnii nicmadaydiina ay idiin kaamil noqotay waxaanan idinkaga raalli noqday diinta islaamka inaad manhaj iyo diin iyo dhaqan ka dhigataan dadka muxaqiqiinta ah ee fiyow ee cadaaladda iyo insaafka ay wax unooga hareen waxay ictiraafeen diinta islaamku inay tahay diin wax kasta oo maslaxo adduun ah iyo wax kasta oo maslaxo aakhare ah diin kala dhigdhigtay kala faahfaahisay oo wax walba ay maxaa yeelay diintaas iyada ah diinteennan islaamka walaalayaal tadcuu ilaa makaarimi alakhlaaq waxay dadka ugu yeeraysaa dabeecooyinka ama akhlaaqda kuwooda aadka u qiimaha badan runta ayay dadka ugu yeeraysaa iyo daacadnimada cafaafka iyo dhowrsoonaanta ayay dadka ugu yeeraysaa cadliga iyo sinaanta ayay diintu dadka ugu baaqaysaa xifdu ulcuhuud iyo heshiisyadoo la xifdiyo iyo wa adaa-u lamaanaat ammaanooyinka oo la guto iyo walixsaani ila alyatiimi waalmiskiin dadka agoonka iyo miskiinka iyo fuqarada oo loo samafalo loona naxariisto ayay diintuna faraysaa diinteennu waxayna faraysaa xusnuljiwaar darisnimo wanaagsan iyo wa ikraamu dayf qofka martida ah in la karaameeyo iyo guud ahaan isku soo wada duubo altaxalli bimakaarimi alakhlaaq sidoo kale diinta waxay ugu yeeraysaa caalamka oo dhan ajmac muslimiin iyo kayrkoodba waxay dadka ugu yeeraysaa altamatuc biladaati alxayaa in nolosha macaankeeda lagu raaxaysto lagana faa'iidaysto ilee noloshu dhadhan bay leedahay iska noolow oo iska ingegnow ma ahee noloshu waxay leedahay macaan bay leedahay dhadhan bay leedahay shahway leedahay nolosha noocaas ah in macaankeeda la dhadhamiyo iyadoo oo shuruudaheedii iyo dawaabideedii aan laga boodaynin oo qasdi iyo ictidaal lala imanayo waxay diintu caalamka biajmacihi ugu yeeraysaa diinta islaamku ila albiri waataqwa samaha iyo alla ka cabsiga ilaahayga khaaliq ugu dadaalay dadka ugu yeeraysaa waxay diintu dadka ka ehebinaysaa oy ka celinaysaa kana sajrinaysaa can alfaxshaa'i waalmunkari waalithmi waalcudwaan intaas ayay diintu iyo in kaloo ka badan ayay diintu dadka
ugu yeeraysaa oo ah samoo dhan inay dadka ugu yeedho xumaanoo dhanna dadka inay ka celinayso marka meel la tuura male kulligeedna waa maxaasin iyo fadaa'il laakiin maadaama ay acdaadeedii lug iyo faras isugu taageen suuf iyo xanjo kastana ay isugu gunteen siday diintaa iyada ah ay u tashwiishin lahaayeen oo ay u khaldi lahaayeen ayaa waxaa loo samaystay iclaam baa loo samaystay lacago fara badan baa lagu bixiyey ciidamaa loo samaystay in diinta iyadaa dadka la nacsiiyo marka la nacsiinayana waxaa laga wadaa in diintii sawir khaldan laga bixiyo ama si kale loo tarjumo taasaa marka keenaysa inaan maxaasinta islaamka laga hadlo oo qodob ahaan waxa loo doortay horta taasaa keenaysa marka intaasi waa muqadimo walaalayaal waxaanan microfonka ku wareejinaynaa sheekhana alfaadil sheekh maxamuud abu talxa oo bal diinta noocaas ah ee sidaa u qiimaha badan muctaqadaadkeeda iyo waxyaabaha caqiidada la xidhiidha maxaasinta iyo wanaagga laga dheehanaya ee muslim iyo sheekhu fartan noogu fiiqo falyatafadal mashkuuran ma'juuran muwafaqan بالعالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد waxaan aad uga cudur daaranayaa sheekh cabdalle xambali erayada uu ku soo celceliyey oo ah sheekh kelimadaas waan ka cudur daaranayaa marka koobaad marka labaad walaa shaka sida uu suurada oga bixiyey shareecada islaamku inay tahay shareeco qurux badan oo u adeegaysa masaalixda bashariyada oo dhan aayaddan qur-aanka ah alla subxaana wa tacaala sheekhuna uu sheegay alyawma akmaltu lakum diinakum bidaaye ayay lahayd bidaayadeedi iyo bilowgeeduna waxay ahayd aayaddu waa suuratu lmaa-ida aayadda 3 ilaahay wuxuu yidhi alyawma ya-isa aladiina kafaruu min diinikum falaa takhshawhum wakhshawn alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamayaa inuu diinkan asagaa uu dhammaystiray maxaasinta koowaadee lana xidhiidha caqiidada iyo manhajka waxay tilmaamaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu diinkan ku dhammaystiray binnasri waa maxaasinta koowaad ee islaamka waayo shaygu mar haddii uu dhammaystirmo dhammaystirkaasi waa inuu ku dhammaystirmo shay qurux u siyaadinaya quruxdaas ayada ana cize laga dheehanayo ama laga aqrisanayo cize ka weyna ma jirto min naaxiya alcaqadiya wa naaxiya almabda'iya ilaahay inuu diinkan ku dhammaystiray binnasri wuxuu kaloo ilaahay diintan ku dhammaystiray idhaar alxaq ilaahay inuu xaqa uu muujiyey subxaanahu wa tacaala iyo diinkan islaamku inuu yahay diimaha oo dhan diimaha ka sarreeya saas daraaddeed buu nebi moxamed allah subxaanahu wa tacaala u hiiliyey waana addoonkii allah subxaanahu wa tacaala nabiga calayhi salatu wasalaam addoonkii allah weeye iyo rasuulkii uu soo diray sala allahu alayh waali wasalam sidoo kale waxaa ka mid a maxaasinta islaamka xagga caqiidada la xidhiidha ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu hoojiyey ama khudlaan uu ku riday shirkiga qaybihiisa kala duwan oo dhan saa daraaddeed baa aayadda sida ka muuqanaysa alyawma ya-isa aladiina kafaruu min diinikum alla wuxuu leeyahay maanta ayay ka quusteen kuwii gaaloobay min diinikum diintiina ayay ka quusteen bimacnaa waxay ku dadaaleen inay maxaa la yidhahdaa ay diintooda idin soo geliyaan bay ku dadaaleen laakiin mu'miniintu markii ay kaga run sheegeen iimaankoodii oo ay diintoodii ay ku dhegeen ayuu allah subxaanahu wa tacaala una dhammaystiray diintii cizadii islaamkana uu cizo siiyey oo markay gaaladu ay ka quusteen mu'miniinta inay diintoodii ay ku soo celiyaan
إلهي مركا وحوليه هكبقنا أيغا أنيغا إغبقبو ألله سبحانه وتعالى تاسر أيضا لفظه ومحاسن وين محايلة الليه كون كانودان أبوري أساقا إن لغبقو هذا محاسن كبدا ما جرتا ولذلك بأله وحوليه ومن يبتغي غير الإسلام دينا قفك طلبة أو رادية أو ضمعة أو باربارة دينة الإسلام كدين أنا هين دين أهان أبارة يوح ألا لغو عابدو إلهي وحوليه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين horta lagama aqbalayo wajiga lagaga dhufan aakhirana kuwa khasaare ayu ku jira ayu Ilaahay subhanahu jalla wa ala maxaa yeelay waxay ka hor imaanaysaa quruxda islaamka ayay ka hor imaan allihii koonkan oo dhan abuuray cidaan ahayn in asaga la caabudo diintii uu koonkan u soo dejiyay diinaan ahaynna in Allah subhanahu wa ta'ala lagu caabudo waxay ka hor imaanaysaa maxaasinta islaamka ay ka hor imaanaysaa maxaasinta islaamka in badan baad aragteen iyo quruxda islaamka iyagoo laga hadlayo laakiin waxaad aragteen baan u maleynaa iyagoo nadaafad lagaga hadlayo ayagoo noocyo fara badan lagaga hadlayo inta kaliya ma aha saadaradeed baa dadkii afkaarta caafimaadka qabay markii ay fiiriyeen sidoo sheekhu sheegay ahkaamta islaamka markii ay fiiriyeen ayaa in fara badan oo kamida markay shariicada islaamka muuqaalkeeda guud eegeen ayayba ku islaameen waxaad ogtiin 3 maalmood ka hor رمضان كمركي دور بري لا صونا يعني وحاويا بقول يا سغاشن يا شن إلهي أشرك يلي سيبا كويت أو كويت جوكتين الإسلام زوجش يعني هو أفر من المكور وبقول يا سغاشن يا شن كليا واحدة معها بدل إسلام كوليه طيارين تكمدة أولي مدرب كأقوينا أو محالي الدولياش محالي ليبيا كدولي كمدة أو بريطانيا ودوتين درات بصو إسلامي كل ذلك وحويا الله سبحانه وتعالى قروح ذا وشريعة الإسلام كأوسيي حق عقيدة مرك قروح ذا سيكلا شريعة الإسلام كو أو الله قدرة لميس كتيران له متقنا لميس كتيران له سبحانه وتعالى دونيد مطلقة هي علمك مطلقة لنع والبكوبي الله عليه سبحانه وتعالى الله أسجى كلجي إلا عابده أو له جانسمه أو عمل أورالي كيه إلا سمايه سبحانه جل وعلا ولبا لغصة أدلة حجة براهين لغصة مايو أرنتاس أيبا وحي كمتهي من محاسن الإسلام أم خلقوا من غير شيء ميا الله أبوري الشيء الآن أم هم الخالقون مهدف الآن بالله أبوري ما شيء الآن بالله أبوري مس أيقابا وح أبوري با صادرات كون كان أردن إلهي كل جيبوا عابد يا سبحانه وتعالى عد الله عد الشيء إله غيرك إلا عابدي كرنا وحي تلمام يسا الدون كني دين الإسلام كإله دين قروح بضل ولذلك أنه خيري قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله وحمد لين أو الله مدلين عد أصدق كفء أو ضد أما النظير أما الله سمن مجر إلهي وحوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا آيات كلام حكوله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب كل آيات كاسولا قدرة إله بينهم موجن أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ميينا ايدين فيرفيرينين نظرة اعتبار والتدبر والتفكر يعني سمدا متغانا كركوضة سيدا نقول لسني او ان اقرحني او وما لها من فروج اما وما لها اين وحد الدلاع اولهين الهي ساس الله سبحانه جل وعلا سيدا درادت الهي وحده ما اتخذ الله من ولد الهي ولد ما يلن وما كان معه من اله إله كرو أصغى للا عابدنا ما تشري كر الله سبحانه وتعالى بل لو كان فيهما آلهة إلا الله إله كبضا هدو تشري لها كونكم لفسدتا بل إلهي كريما وحجدية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب خلاصة القول عقيدته
waxay daliil u tahay shareecada islaamka quruxdeeda, shareecada islaamka iyo nidaamkeeda iyo maxaasinta islaamka, maadaama cibaadada alle keligii uu leeyahay subxaana wa tacaala, cidaan ahayn asaga ahayn oo la caabudi kara inuusan jirin. waxaan mar labaad su-aasha dib ugu celinayaa sheekh cabdalla cambali, haddii aanu garanay maxaasinta islaamka muqadimadii aad ka bixisay iyo maxaasinta waxa ugu weyn ee tilmaamaya inay tahay caqiidada islaamka ee saliimka ah ee saxiixa ah ee alla xaq uu leeyahay, haddii asaga cidaan ahayn la siiyana aynan maxaasin iyo qurux ka imaanaynin, oo doon in la caabudo miyaa quruxa, timo in la caabudo miyaa quruxa, qubuur in la caabudo miyaa maxaasin islaama, in weliyaal la caabudo, bashar iyo bini aadam la caabudo miyaa qurux islaam noqon karta? maya, quruxda waxay noqon kartaa allihii koonkan caabuday in keligii la caabudo. cibaadadu marka way fara badan tahay, ma jiraa cibaadada iyo arkaanta waaweyn ee weliba islaamka wax tilmaamaya maxaasinta islaamka iyo quruxda islaamka iyo bilicda islaamka? waxaan kusoo dhaweynayaa sheekh cabdalla xambali bal inuu arrintaa iyadaa noo ifiyo. falyatafadal mashkuuran ma'juuran biidn illah. أحسن الله إليكم شيخ محمود. نعم، الصلاة waxaa xusid mudan salaadu inay tahay tiirkii islaamkan, lafdhabartii diinta inay tahay, waxa ilaahay loogu dhowaado subxaanahu wa tacaala bacda tawxiidihi, iyo in isaga la keli yeelana camalka ku xigo waa salaada. salaada iyada a markaa qurux ay leedahay. salaadu waa sila bayna alcabdi wa rabbih, waa xiriirka ama calaaqada u dhaxaysa addoonka iyo rabbigii. haddaad ka fiiriso xagga nadaafadda iyo in markii horeba shuruud looga dhigay qofka salaada gudanaya inuu jidhkiisa iyo huggiisa ama dharka uu qabo iyo gogosha uu ku tukanayo iyo meesha uu joogo intaba inuu soo daahiriyo, soo nadiifiyo. salaadaasi quruxda badan qofka wuu soo weysiisanayaa, waxyaabihii meelahan weliba xubnaha jidhku ay wasaqdo ay ka taabato ayuu soo nadiifinayaa. waa marka shay qurux badan oo qiimo badan. salaada iyada ah waa ikhlaas, waa iqbaal, ixtiraam iyo khuduuc ilaahay subxaanahu wa tacaala la isu bihinayo, lana caddaynayo oo la sugayo inuu qofkani addoonkii ilaahay yahay, khaaliqii khalqay subxaanahu caza wajallana inuu u cibaadaysanayo. taasi marka waxay ku tusaysaa inay salaadu tahay min maxaasin alislaam. u fiirso, adigoo saa isu soo nadiifiyey, saana usoo diyaar garoobay, ayaa waxaad ku bilaabaysaa marka horeba inaad weynaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala, oo aad qirta inuu yahay fowqa kulla shay, inuu yahay allaha mutay weynayn iyo cadama iyo ijlaal. markaasaad waxuu addoonku dhahayaa allahu akbar, ayaa salaaddii kusoo gelaysa. kadibna waxaa ku xiga ammaan iyo sharfid ilaahay subxaanahu wa tacaala la sharfayo, oo la qirayo ilaahnimadiisa, la qirayo rabbinimadiisa, la qirayo sifaadkiisa wan wanaagsan. allihii subxaanahu wa tacaala min cadam addoommadan ka abuuray ee ku manaystay inay jiritaankoodanba ku manaystay, ee islaamka ka dhigay. allaha subxaanahu wa tacaalaana ilaahaygaa addoommada waa ka mudan yahay in la ammaano oo la sharfo, oo aada loogu celceliyay weliba ammaantiisa iyo sharfidiisa iyo weynayntiisa. kadibna waxaa ku xigo in ilaahaygaas in addoommo loo yahay la qiro, oo laga dalbado lagana codsado inuu ugu gargaaro, inuu ilaahay u gargaaro. iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin, isaga un la caabudayo oo uu rabbi yahay subxaanahu wa tacaala matbuuca, oo isaga la raacayo loona dhaga nuglaanayo, wixii isaga ka soo harayna aan dheg jalaq loo siinaynin. kadibna ilaahaygaas waa midka marka gargaarka adduunyo iyo midka aakhiraba bixiya. isagaasaa marka la gargaarsanayaa oo la leeyahay ilaahu noo kaalmee, marka ilaahowna tabantaabi
ilaahayow danaha naga adduunyo iyo midda aakharaba noo fududee ee noo dhammaystir nin walba markaasuu muraadkiisa marka uu sheeganayaa uma waxaa ku xigo ood ogtihiin walaalayaal oo inay maxaasinta salaada noo sheegaya inuu qofka isaga ah markuu qalbigiisa uu ka buuxsamo weynanka ilaahay iyo cadamadiisa iyo haybadiisa iyo qiimihiisa markuu qalbigiisa tif ka noqdo ayuu markaasi fayakhiru almar'u saajida ilaahay buu markaa u sujuudayaa weliba calaa ashrafi acdaa'ihi xubnaha jirkiisa midka ugu sharaf badan waa wejige ayuu qofkii wejiga dhulka ilaahay u dhigayaa isaga oo leh marka subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi ama adkaartii kale ee nabiga ka sugnay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh salaadaasi marka mar haddii ilaahaygii khaaliqa ahaa ee maaliga ahaa ee raasiqa ahaa ammaantiisa iyo weynayntiisa iyo lagu qiray oo ilaahaygii camaliyan qowl iyo ficilba ilaahay lagu weyneeyey wejiga dhulka loo dhigay salaadu marka sidaasi waxay ku noqotay maxaasinta salaada ayay noqotay taasi marka waxay ku dhaxal siinaysaa intaas afcaasha hadda aan soo sheegnay ee bilowgaas ah iyo weynaynta qalbiga ka buuxsantay ee addoonka uu dareemay iyo sujuudda uu ilaahay isu dulleeyey inuu ilaahay addoon u yahay khuduuca noocaas oo kale ah iyo hoggaansanka dhabta ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala aada u qirtay liman biyadihi maqaaliidu lmulk hanasho oo dhan iyo boqortooyo oo dhan ilaahayga ay gacantiisa ku jirto aada u qirtay taasi waxay ku dhaxalshiinaysaa marka iyada ah maxaarimta inaad ka tagto oo ilaahay soohdintiisa aada ilaaliso ilaahay xuduuddiisa inaad weynayso ilaahay shacaa'irtiisu inay kugu weynaatay ku dhaxalshiinaysaa wasadaqa allahu fii qowlih ina asalaata tanhaa cani alfaxshaa'i waalmunkari waladikru llahi akbar salaaddu waxay reebaysaa xumaanta iyo munkarkay kaa reebaysaa ilaahay xusitaankiisana waa weyn yahay subxaanahu wa tacaala marka salaadu waa min maxaasin alislaam ilaahayna bilaash ogama dhigin alruknu athaani bacda tawxiidkiisa lasoo qiray rukniga labaad ee ilaahay addoommadiisa saalixiinta uu ku farad yeelay ee min fowqi sabci samaawaat looga soo farad yeelay ilaahay bilaash ogama dhigin salaadu marka addoonka waxay ugu kaalmaynaysaa oo wasiiladii loo marayay u noqonaysaa sidaan sheegnay masaalixdiisa adduunyada iyo midda aakharo qur-aankana noo sheegaya arrinkaasi qaala tacaala wastaciinuu biالsabri waالsalaa sabirka iyo salaada kaalmaysta ayuu alla subxaanahu wa tacaala leeyahay sabirku waa maxay waxaa laga yaabaa salaaddii adigoo jiifa inaad hurdada ka toosto oo aada weysaysato ood biyo qabow ku weysaysato ama biyo waxay dooni ahaadeena aada weysaysato aada labisato hurdadii macaaneed aad ka kacdo aada masaajid ka aaddo raaxadii aad markaad dareemaysay aad ka tagto oo aada markaasi sidaas salaaddii aad ku aaddaa laga yaabaa salaaddu marka iyo sabirku labadaba waa acmaasha ilaahay loogu dhowaado subxaanahu caza wajal kuwa ugu qiimaha badan weeye oo sabirkiina daacada anwaacdiisa saddexda ahayd daacada ilaahay oo lagu sabro iyo macsiyada oo laga sabro iyo xanuunka iyo imtixaanka oo hadduu kugu yimaado aada ku sabirto intaba waxaa weeye waa u dhowaasho ilaahay subxaanahu wa tacaala markii waddadii loogu talagalay loo maro ilaahay manhajkii rasuulkana calayhi salaatu wasalaam loo maro salaaddu marku waa maxaasin waa min afdali maxaasin alislaam islaamku waxyaabaha uu adduunka kusoo kordhiyey iyo quruxdiisa meesha laga dheehanayo weeye hadday noqon lahayd xagga nadaafadda iyo hadday noqon lahayd xagga weynaynta rabbi iyo hadday noqon lahayd xagga isku dhejinta aada rabbi isku dhejisay ee inaad addoon u tahay aada u muujisay kadibna aada weydiisatay gargaarka kadibna aada hidaayo iyo waddada toosan ee siraata almustaqiim aada ilaahay weydiisatay subxaanahu caza wajal siraata aladiina ancamta calayhim gayri almaqduubi calayhim wala addaaliin kuwii lumay iyo kuwii loo carooday waddadoodii inuusan ilaahay ku marin meesha aad ku weydiisanayso waa salaadii salaaddu markaa
sidaasay ku qurux badan tahay sidaasay maxaasinta ilaahay ay ku noqonaysaa aan mar kale ku celiyo sheekhana alfaadil sheekh maxamuud abu talxa hadday salaadu tahay rugnigii labaad ee arkaanta islaamka arkaanta kale ee islaamka sida zakadii iyo soonkii iyo xajkii ma laga dheehanayaa iyagana quruxda islaamka falyatafadal mashkuura nacam walaa shaka fi dalika haddii aan rugniga saddexaad qaadano oo zakada ah kelimada azakaa ayaaba waxaa laga fahmayaa inay tahay annamaa waziyaada waa wax kordhayo oo ziyaado noqonaya marka xoolihiibaa kuu ziyaadaya barakadiibaa cumrigaagaa kugu ziyaadaya markaa zakada aada bixiso xoolahaagina ma nusqaamayaane way sii ziyaadayaan awlaadaadu ilaahay cumrigooda ku ziyaadinayaa camalkooda ku wanaajinayaa marka zakadu waxay ka mid tahay alislaam maxaa yeelay minhaa islaaxu xaali lfuqaraa waxaa ka mid a zakada in dadka fuqarada ah axwaashooda lagu toosinayo inta aanan mawduuca gudagelin waxaan aad iyo aad u jeclaysanayaa maadaama oon zakana hadda aan ka warramayno inay tahay maxaasin islaam haddana aanu nidhi waa islaaxu xaali lfuqaraa aanu nidhi waxaan rabaa inaan oga faa'iidaysto sidii aan dhowr jeero hore aanu tilmaanay dadka muslimiinta maanta xaaladda ay ku sugan yihiin cumuuman khaasatan dadka soomaalida ay ku sugan yihiin waa xaalo aada iyo aad mataqaanaa looga xumaado oo looga walwalo oo looga fikiro ayagoo weliba ramadaan ku jira marka islaamkeenna wuxuuna barayaa wax loo yaqaan waxaan hadda aan ka hadlayno oo ah maxaasinta iyo quruxda islaamka uu leeyahay xidhiidhin in la xidhiidhiyo in la gacan qabto in wax loo taro dadka fuqarada ah waxaan aada iyo aad oola cajiibay maktab hadda annaga agtaanada ku yaalla qaahira ayaan shalay tegey markaasaa waxaan fadhiyey daraad iyo shalayba labadu waan tegey sawaycaad yar baan fadhiyey hal saac iyo wax ka yar baan fadhiyey intaa dadkii tabarucayay waxaa ila yaab badnaa nin intuu yimid oo daftarka oo dhan qaatay yacni $5,000 intuu ku qoray ishaan ku xaday ayuu maxaa la yidhahdaa yidhi maxaan kugu qoraa buu yidhi markaasuu yidhi faacil khayr ku qor $5,000 baloo fiirsa qiimaha uu ninkaa leeyahay marka zakadu maxaasinta islaamka ayay ka mid tahay xidhiidhinta maxaa la yidhahdaa fuqarada ayay ka mid tahay baahida miskiinka in la owda ayay ka mid tahay qofka daymaysan in daynta lagaga bixi ayay ka mid tahay bal akhlaaqda wanaagsan iyo karamka wanaagsan ayay mataqaanaa iikan zakadu bixinteedu ay qeyb ka tahay waana akhlaaqda wanaagsan juudka iyo deeqsinimada ayay ku bari zakada oo la bixiyo waxay kaa dheeraynaysaa akhlaaqda liidato oo bukhliga uu kow ka yahay waxaa kale oo ka mid a qalbiga ayay nadiifin waxayna ka nadiifinaysaa xubu dunyaa sidoo kale maalka ayay waxay ka ilaalinaysaa inay musiibooyin iyo wax nusqaamiya ama wax muuqda ama wax macnawi ahun markaa muuqanin ayay ka ilaalinaysaa wahaakadaa maalka waxaa zakada loo isticmaalaa difaaca diinta islaamka oo jihaadka iyo mataqaanaa iikan in lagu horumariyo masaalixda kulliga ahee caamka ah ayaa zakada loo isticmaalayaa calaa kulli xaal muslimiintu kama maarmaan kamana deeqtoomaan inay maxaa la yidhahdaa zakada ay bixiyaan inay ku xidhiidhiyaan fuqarada inay maxaa la yidhahdaa mujtamaca wixii ku imaanayo oo dhan inay kaga fogeynayaan ama nafsad walwal iyo ama kusoo toostay inay ku faraxgeliyaan marna kama zuulayaan maalka oo la bixiyo oo zakada uu kow ka yahay maxaasinta islaamka inay tahay waxaa kuu daliil oo bukhliga iyo cudurrada la dagaalamaya qowluhu tacaala waman yuuqa shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun muflixuuna baa la yidhi kuwa mataqaanaa ka ilaaliya naftooda shuxa nafsihi qofka ka ilaaliya yuuqa laga ilaaliyo shuxa nafsihi fa ulaa'ika hum lmuflixuun kuwa oo keli a weeye kuwa muflixiinta ah marka waxa aad ku guulaysanayso ood muflix ku noqonayso ood ku guulaysanayso waa waxyaalaha quruxda islaamka ka mida sida oo kale waxaa la barayaa dadka aqniyada ah inay markaa ay wax bixiyaanna waa la barayaa zakadu marka waa shay aada iyo aada u qiimo badan zakadu waa mujtamaca oo iska warhayo wey waa mujtamaca oo iska warqabo wey
ومجتمع أو جمعها إسقبصة وي مجتمع قوة أيا كجرته أود أيا كجرته لكن مجتمع يدك على أرنتها عمله إسكما حريريان أرنتها أيضا لبدا ولا لها وحبا إساسينين لبدا الدرس كأن وحبا إساسينين بل رير قلباتك وهذا دقنها انت نبضانه meelaha ku jirjirtay labada isqabtaan ba waxay isu yihiin ayna jirin laakiin shariicada islaamka quruxdeeda xoolahaagi baa la yiri qayb inaad ka goysaan 85 gram oo dahaba xoolo u dhigma hadaad haysato muslimow sanadna uu ka soo wareego waa inaad boqolkiiba 2 iyo bar aad faqiir ka siisaa baa la yiri sadaqadan kale ayada iska badaaba oo liman shaa hatta haday ka yartahay zakatul fitr baa jira oo hadda nagu soo foolle oo macnihiisu yahay qof kasta oo muslima xor ha noqdo adoon ha noqdo ha yaraado ha weynaado dumar lab ha noqdo nadig ha noqdo ciid habeenka ciidda haduuba gaaro qofka asaga waxa laga doonayaa in uu naftiisa zaka ka bixiyo cidda la siinayana waa fuqarada iyo masaakiinta iyo mucawiqiinta iyo dadka u baahan marka su'aasha Sheekh Abdullah Hanbal kaanta islaamka kamid ma tahay salaada kadib وقت الماما يا محاسنتا إيا قروح دا إسلامك فنعم أو مدى أنصار شاقني والزكاة أيا كامدة لكن أساقا وحنديب أقول علينا يا هدي أنو قرني زكاة صلاة دوسات كشاكيسي إنا قروح دا حريرك أبدونك يا الله كدحي نذافة ديسا قلبك إيا نذافة ديسا موقالك إيا محالي إنو ألا إسود الليو أو قروح دا أقوين haddii inta laga soo tagayna zakadu ay noqotay wax u dhaxaynaya labada adoon midka wax haysta iyo midka waxba haysanin inay walaalo noqdaan inay iska warqabaan inay isxiriiriyaan ma jira cibaadaadka waaweyn oo soonku uu kamid yahay wax laga dheehan karo ama laga dheegan karo ama laga soo dhaxbixi karo akhlaaqiyaadka wanaagsan ee islaamka ama maxaasin islaam Sheekh Abdullah Hanbali waa mawduuca dib ugu celinaya فليتفضل مشكورا مأجورا بسم الله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين شكي وحان كتشرين إن أركانة إسلام كولي بقابك يوكله الرئيان أي أكرة الماميان محاسنة إسلامك هي قروح ديسية بالعديسة مركا صوم كوهرتا وإن وادقرنا إسانا وحاوية إنو قفكو أفهايستو oo ka afhaysto waxyaabaha muftiraadka loo yaqaano fajarka laga bilaabo saadiqa ilaa qoraxdu ay ka dhacdo nin walba meeshuu joogaba hadda aminkan hadda aan hadlayna dadka qaar baa sooman inkastoo anagu waa hore aan afurnay marka soonku hortu waxa weeye waa rukn min arkaan al-islam waliba tiirarkii islaamku uu ku taagnaa ee laf dhabarta u ahaa weeye la'aantiisna qofka muslimka qofkii inkiraa culimadu waxay mutafaq ku yihiin ninkii inkiraa inuusan soonku waajib ahayn ama Allah uusan waajib yeelin inuu gaaloobayo uusan islaam noqonaynin cibaadada uu yahay iyo uu hoggaansanka awaamirta Allah subhanahu wa azza wa jal amar Allah oo la fulinayo oo qasab ah oo sandulla alihi khaliq وأدومديسو كو أدوم كسكو waxa weeye waa maxaasin waana qurux waana diga rogasho adduunka la jooga ma ogtahay aakhira markii la tago ayaa waxa si cuntada mid u macaan lagu sii maalinka dambe waad unkahan waad nici yahuud baaba lagu canaantay Soomaaliya isaga oo shimbir iyo digaag salon iyo malab iyo wax qiimo badan oo sida xabagta u eeg oo aadan iska badeyn karin ayaa samada iyagoo sajallaataysan looga soo deyn jiray kadibna way qoonsadeen oo waxay yiraahdeen annagu waxaan xiranay iyagoo sajallaataysan oo samada laga keenay ma rabnee waxaan rabnaa beera aan qodanno iyo basal iyo cadas iyo waxaas aan u baahanaa ilaahayna waa siiyay wuxuu yiraahday arrinkoodii buu u yeelay bimacnaa waxaan oga socdaa طبيعة البشر وحاوي هورتا شيء مألوف كيه مركا أو برتي ولفن قلي وحوب بهاي مركا سومالدو واتن ترى هذا وحي عصب عالم كاتشعل وحكا لا أديك الرجشو بهاي مركا صومك وحاوي وأديك الرجشو عنتدي قفك ويقاني هي أوقات دي وحون الشري يقابك وحون الشري يو كديك الرجنا يا أو كبد القاضنا يا أو سكر وحون يا
taasi markaa hadda qolyahan dhakhaatiirta ee cilmi lxadiidka wax sheega cilmigan cusub hadda wax sheega intaasoo faa'iido iyo intaasoo khayr oo aanan horay loo aqoonin bay waxay ka sheegeen soonkaa isagaa faa'iidooyinka uu leeyahay iyo maxaasinta uu leeyahay aadse hadda ugu fogaan mayna middaas waa cibaado waa rukn min arkaan alislaam waana in wixii aad u dumantay ee la qabsatay lagaa celiyo oo lagu yidhaahdo anigan hadda idinla hadlaya dadkuna waa kale kolbadu duwan yihiin 5 maalmoodee hore ay ugu daran ramadaanka maxaa yeelay xilligii aad wax cuni jirtay caloosha xilligii ay wax cuni jirtay rabtaa haddaad xilligii wax cuni weydo waxaa way adigoo dhawaas daba maraysaa marka isdaba markaas iyo u hoggaansanka aad ilaahay u hoggaansamayso waa cibaado laakiin faa'iido badan iyo maxaasin iyo bilic buu leeyahay waxaana ka mida midda iyada ah insaanka wuxuu ku bixinayaa inuu u naxariisto sidii hadda sheekha uu zakada u sheegay fuqarada iyo dadka dhibaataysan ee waxay cunaanan haysanin maxaa yeelay Soomaalidu waa tan tiraahda hababtii uu qofkii walba saas roob ku daayaba inay dadka kale oo dhan in roob ku daayaad moodaa marka haddaad adigu ilaahay qado iyo qureec iyo casho iyo waxaad cunto iyo waxaad cabto ilaahay ku siiyey dadkoo dhan saa ma wada aha ilaahayna waxba uma waayina imtixaan iyo wuxuu ka leeyahay dan buu ka leeyahay iyo xikmad buu ka leeyahay marka qofka inuu dareemo raxmadda iyada uu fuqarada u naxariisto inuu dadka dhibaataysan dhibka haysto inuu dareemo kadibna arrintaa ay ku kiciso inuu walaaladii u naxariisto u turo oo wallahu fii cawni alcabdi maa kana alcabdu fii cawni akhiihi mar haddaad halkaa ka duushay ood ka intilaaqday oo aad tidhaahdo ninka dhibaatadii i haysatay baa haysata soo ma aha ama gaajadii aan dareemayey buuba isagu laga yaaba inuusan 3 maalmood iyo 4 ayaamood uusan wax ku cunin soo maaha markaasi waxay kugu bixinaysaa arrinta inaad ninkii wax siiso waad wada garanaysaan baan u malaynaya xadiidkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ninkii isagoo ooman ku soo arooray ceel kadibna ceelkii intuu u dhaadhacay biyihii soo cabbay markuu ka soo furay buu wuxuu arkay ey oon daraaddii carrada la cunaya oo carrada leeleefsanayuu arkay oon daraaddii kadibna wuxuu gartay oonkii hadda muddo ka hor hayay oo kale inuu midkan hayo inuu eygana hayo ceelkiibuu ku noqday intuu khufkii uu qabay ama sharabaadadii uu qabay mid ka mida intuu siibtay ayuu biyo kusoo qaaday eygiibuu siiyey ficilkan isaga aan ninkani maxaa markii dambena dee ilaahay siduu nabigu sheegay jannuu ku galay oo abaal weyn thawaab weyn buu ku helay ficilkan markaa qofka isaga aan naxariista noocaasa maxaa ku bixiyey dareenkii uu oonka dareemay soonku marka waxaad dareemaysaa oonka iyo gaajada iyo cuntada oo laga afqabto xanuunka ay leedahay ayuu qofku dareemayaa kadibna dadka dhibaataysan adiga oo laga yaaba inay saacado lagu yiri saacada kadib baad cuni doontaa yaa laga yaabaa inaad sugi la'ayd qofkaan haysaninba ka waran qofkaan meel ku ogeynba ka waran sidoo kale soonku qofku wuxuu dareensiinayaa fadliga ilaahay subxaanahu wa tacaala cuntada iyo qofka ikhtiyaarka ilaahay uu siiyey iyo markuu doono wax cunayo iyo markuu doono uu iska daynayo inuu fadliga isaga waa fadli min allahi inuu dareemo soonkaas sabab ugu noqonaya وبالتالي إنه كشكرية مركاسي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إلهي سبحانه وتعالى النعمة سداد كشكري سوكو زياد هداد كشكرين وإذن وحاوي النعمدين واللقاء قاضا إن أدو إلهي سبحانه وتعالى عقابتي سنة ودرنتهي محايا لشكري إلهي أول لوايو عقاب إلهي باللغمتا عذاب إلهي باللغمتا عياذا بالله soonku marka walaalayaal qofka wuxuu ku xoojinayaa nafta wuxuu ku xoojinayaa in ay sabirto dulqaadna ay yeelato indibaadna ay la timaado indibaadka waxa weeye inaad hoggaansato oo nin nidaamsan aad noqoto nin la xukumi karo inaad noqoto nin talada yeelaya inaad noqoto soonka laga faa'iideysanaya sabirkaas iyo dulqaadkaasi iyadana waxa weeye waa qofka ibn aadamka tabeecooyinka uu baahan yahay ee wanaagsan ee waliba ku amaanan yahay bay kamid tahay qofka inuu sabir leeyahay dulqaadna uu leeyahay
qofkaasi waa nin dulqaad badan ayaa la yidhaahdaa waa nin kaadsiiyo badan baa la yidhaahdaa waa nin aan degdeg badnayn baa la yidhaahdaa soonku marka taasuu sabab kugu noqonaya siyaamku ama soonku waa nisfu sabri sabrkuna iimaan in la sabrana waxaa weeye qofka wuxuu ku gaaraa meesha aad tiigsanayso adduunyadoo dhan baaba sabru saacaba iska ah inaad maxaarimta macaasida ka afqabsato ood ka soonto ilaahay daacadiisana aad garhka geliso sabr bay u baahan tahay la astashilana sacba aw udrika almunaa faman qaadat ilaamaalu ila lisaabirin waa ninkii shaacirka waa kii lahaa waxaan yaraysan doonaa oon wax sahal ah oo aan dhib badnayn aan ka soo qaadi doonaa waxyaabahaad adag ee qallafsan oo dhan baa aniga ila fududaan doono sabirka markaan la imaado ayaa ila fududaan doono maxaa yeelay buu leeyahay yididiilada iyo meesha la tooganayo iyo meesha loo socdo qofka meesha uu ku taamayo ma gaaro ilaa nin saabir ahoo sabray ma ogiye nin kale ma gaaro marka soonka dulqaadka iyo sabirka iyo akhlaaqda wanaagsan oo dhan baa lagu gaaraa naftana wuxuu u diyaariyaa inay noqoto naf habaysan oo dulqaad leh oo nugul oo kaadsiiye leh oo shucuur insaaniyad ah leh shucuur yacni ibni aadamnimo dareensan ayay sabab ugu noqotaa sidaan soo sheegnay haddaayna markaas laakiin soonku saa ay tahay haddana waa cibaado iyo imtithaal liawaamir illaahi subxaanahu caza wajal waxaan u malaynayaa aayaad fara badan iyo adilo fara badan oo mawduuca kusoo aroortay waa jiraane laakiin hadda qaabkan wax isfahansiinta ahaynu ku wadaynaa biidni rabbina araxmaan arkaantii islaamka ayuun baan sideedii ugu socon doonaa waxaanan mar kale ka codsanayaa sheekh abu talxa sheekh maxamuud waxaan ka codsanayaa bal xajka oo rugnigii hadda arkaanta islaamka rugniga ka harayba ah xilligii loo diyaar garoobayeyna hadahan oo kale ay tahay bal isagana maxaasinta iyo meelaha uu ka muujinaya islaamka iyo bilicda islaamka isna wixii ilaahay u furay inuu na dareensiiyo ama noo sheego ayaan ka codsanayaa falyatafadal mashkuuran bismi illah xajku waa qasad alxaju alqasdu baa la yidhaahdaa oo loo qasto niyad wanaagsan adiga oo wata inaad ilaahay beytkiisa aad tagto subxaanahu wa tacaala maxaasinta ama quruxda koobaad ee aan xajka ka tilmaami karno waxaa ka mid a ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu jecel yahay in la kulmo wuxuu jecel yahay jamaacada qur-aanku in badan buu tilmaamayaa waaw ljamaaca watacaawanuu wafcalu lkhayra wاctasimuu bixabli اllaahi wasjuduu warkacuu kulli qur-aanku wuxuu tilmaamayaa muslimiintu inay hal mid ay noqdaan oo isu kulmaan quruxda xajka marka waxaa ka mid a allah subxaanahu jala wacala inuu u diyaariyey muslimiinta oo dhan xuduntii buqcooyinka alla uu abuuray subxaanahu wa tacaala xudunteeda inuu iskugu keeno waana qurux cajiib ah laakiin quruxdaa waxay sii qurux badnaanaysaa markii ay isku darsato laba arrimood arrinta koowaad wax la yidhahdo annadaafa waad ogtihiin qofku markuu ama cumrada tegayo ama xajka uu tegayo miiqaad baa laga xajiyaa ama miiqaad ama makaano ayaa xajka laga xidhaa ama cumrada laga xidhaa ama markii tamatuc hadduu yaho xaj iyo cumro la isku darayo hadduu infiraad yahay oo maxaa la yidhahdaa xaj kale uu yahay hadday cumro bas ay tahay wa hada afdal kaasaa fadli badane cumro kulka hore uu xidhanayaa waxaa laga soo xidhaa reer madiine meel bay ka xidhaan reer fulaan xidhaan reer ciraaq meel bay ka xidhaan reer shaam meel bay reer yamaneed meel bay ka xidhaan marka intaada xidhanin waxaa lagu yidhaha nadaafad meesha ugu dambaysa waa inaad la timaadaa marka awalan dadka oo wada nadiif ah oo qurux badan oo haddana hal maro qaba go-cad oo kore iyo go-cad oo hoose qaba taas marka waxaa weeye muslimiinta intaan ayagoo qaayatan nadaafo ku sugan inay iskugu imaadaan ubucdi iyo xuduntii muslimiinta horta taas walidaalika waxay igu soo xaadirtay naag iswiidhisha oo weliba naag muthaqafada oo mutacalimada oo 2 sano ka hor islaamtay ayaa waxay tiri markii ay maqaalkeeda ay qoraysay maxaad ku islaamtay baa la yidhi markay masaajidka tagtay waxay tiri aniga oo TV-ga iska gedgedinaya remote controlka ayaa waxaa ii soo baxday tiri qanaa islaamiya qanaadka islaamiya marka waxay ahayd sidan oo kale cumro ahayd kadibna waxaan fiiriyay tiri
horta dadka meesha ku tukanaya intay dhan yihiin kadibna waxaan fiiriyey bay tidhi labiska ay qabaan dadku nooca ay yihiin kadibna waxaan fiiriyey bay tidhi sida imaamku looga amar qaadanayo sudaysi maalan allahu akbar uu yidhaahdo ama uu mataqaanaa ii keen imaamku uu dhaho say dadku oga dambaynayaano hal mar la rukuucayo oo hal mar gadaashii la sujuudayo markuu ka baxayo uu salaamta haasaan la yaabay waxaan isweydiiyey bay tidhi dadkan yaa casuumay oo warqado u diray oo isku keenay waxaa idhi bay tidhi sidoo kale waxan yaa kala nadaaminaya waxan ummadda intan ayaa kala nadaaminaya kadib bay masaajidkay aaday waa loo sheego nebi ibraahim baa iskugu yeedhay bay oo nebi ibraahim yuu hadda nool yahay maya waxaa weeye nebi ibraahim qarnigaasuu noolaa dhawaqiisi unbaa nin walba dhegta kaga dhacdo uu ku yimid baa layidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan qirayaabay tidhi intaasoo qofoon warqad loo dirin oon la casuumin oo haddana nin walba nadaam ku socda oo wax kala celinaya uusan jirin oo ciidamo mataqaanaa dee hal iyo laba meel taagan mooyeen ciidan kan qabanaya kana qabanaya uusan jirin nin walbana ujeedi iyo hadaf leh waxaan qirayaabay tidhi diinta saa u nadaamisay inay tahay diin xaqa shahaadati an laa ilaha illa allah wa ana muxamada rasul waa islaamta gabadh adiyada sidaa daraaddeed quruxda islaamka waxaa weeye in ilaahay iskaga keenay ummadda min mashaariq alardi wa magaaribiha ilahay uu ka soo kulmiyey fii saciidin waaxid yacbuduuna ilaha waaxidan hal meel baa la iskugu keenayaa laakin bilmunaasaba ayuha alikhwa sida uu cumar bin khataab yiri radi allahu tacaala canhu xajaru aswadka markii uu salaamayey ama dhunkanayay sidaa dunta kuusoo hesho wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salatu wasalaam ayuu mataqaanaa kaga daynayay wuxuu yidhi inii aclam anaka xajar laa taduru walaa tanfac walowlaa anii ra'aytu rasuula sal alay slam yuqabiluka ma qabaltu saa daraaddeed waxa la caabudaya dhagaxa ma falyacbudu esh rabba hada albeyt yani rabbigii kacbadan lahaabaa la caabudaya laakin tani waa tacabud waa adigaa lagugu addoonsaday amar qaadashadaada weeye waxa la eegayo fii saciidin waaxid hal banaan bay iskugu imaanaya maxaa ka qurux badan maxaa ka wanaagsan goorta ay bisha la yidhahda dilxija ay 8 noqoto intaas oo milyan oo muslimiina ay mataqaanaa maka ka dhaqaaqaan ayagoo u soconaya meesha la yidhaahdo mina u soconaya kadibna mukhayamaadka wada degaya kadibna subaxa sagaalaad ay u wada dhaqaaqaan maxaa la yidhahdaa ikeen carafo u dhaqaaqaan kadibna carafo ay wada istaagaan imaamka khatiibka ay dhegaystaan nin walba uu gacmaha kor u taaganayo rabbi uu caabudayo ilintu ka daadanayso ma acdam maxaa ka weynaan badan maalinta ayada iyo qiimaha ay leedahay saa daraaddeed maxaasinta ugu weyn waa inay muslimiintu sa u kulmaan waa inay muslimiintu isbartaan waxaa iyadana kamid de hal ilaah bay caabudayaan subxaanahu jala wacala markaasay kulli isku soo wada dhawaanayaan muslimiinta waxaa ka muuqanaysa inay isku xidhnaan diineed baa ka muuqanaysa quwa iyo awood baa imaanaysa wuxda islaamiya ayaa imaanaysa xajka sidoo kale waxaa lagu xusuustaa ambiyada ilaahay subxaanahu wa tacaala qiimaha badnayd watakiduu min maqaami ibraahiima musalla goortaa dawaafka soo dhamayso inaad 2 ragcadood ku tukato maxaa la yidhaha kacbada sida fiicanna waa maqaamu ibraahim gadaashiisa ayadana aad iyo aad bay mataqaanaa u qiimo badantay u wanaagsanaan lahayd sidoo kale waxaa kamid a quruxda xajka waxaa kamid a nafta ayuu sifaynayaa arag nafta ayuu sifaynayaa walidaalika u fiirso qofkaan tegin asagoo hadda ma garan karo laakiin shaksiga tegay rabbulkacba markaad kacbada sa ugu baxdo oo cadamada kacbadaba aad aragto ayaa waxaa qalbigaaga ka baxaya haybo kasta shay kasta oo qalbigaaga ku jiray ayaa qalbiga ka baxaya qalbigaagu wuxuu noqonayaa warqad cad ayuu noqonayaa nadiif ayuu noqonayaa marka waa tasfiyatu nafs sidoo kale xajka waxaa kamida in lagu barto maxaa la yidhahdaa waxbixinta maxaa yeelay yani $3,000 baad ku xajiyaysaa ciyaar ma aha naftaadii baad mataqaanaa quruxda islaamka kamid tahay inaad adigoo soo gudanaya waajibaadka kamid a inaad xoolaha intaa dhan bixiso midda kale waxaa kamid a inaad sabar iyo dulqaadka lagu baranaya maxaasintay kamid tahay qofka muslimka in uu barto siduu sheekhu hadda uu sheegayay muyuucada iyo dhalaalka iyo macaanka iyo raaxada iyo maya qofku inuu naftiisa sabar baro walidaalika taxamul mashaaq yani safar intaa dhan baad gelaysaa sidoo kale quruxda waxaa kamid a sidoo kale in ziinadii laga tago
برفون ما استعمالي كذي انت الحج حرام تاعي كان مسمين كذي كان مسمين كذي حتى اسلام مش بايسين كذي مخراتي كمان نقول كرت ايضا لمهرين ايو هذا قبتنا اسكا بدابه وكا يعني زينه دي اورن خيرادي بلا يتي اوام خيراد محاسن الاسلام كو حاكمه ايو الاخوه كميده حج ku saabsan kibirki fiiri nin baa suud soo xiran lahaa lama dhihin nin walba oo xaramka iimaanaya oo xaj iimaanaya macmuru iimaan saadaradeed baa waxa la yiri ninkii madaxda ahaa iyo ninkii madaxda loo ahaa iyo ninkii mataqaana iiga ninba haduu yahay waa inuu halka dhar u xidhaa dhulla lillahi azza wa jalla ilaahi ba maalinta la sudulleynaya in dadku ay siman yihiin ba daliil ay u tahay maxaasintaasna waxay hordhac u tahay maalinta weyn qiyaamo maalinta weyn ee qiyaamo imaan doonta ee dadku ay wada siman yihiin xagga labiskan ay ka wada siman yihiin hadii ba labis uu jiro waa la qaawan yahay amalkan ay ka wada siman yihiin oo nin walba maalin la qolo hebel halkaas ka soo baxaysa qolo hebel halkaas ka soo baxaysa ayna jirin ayay muqaddime iyo hordhac u tahay ninka boqorka ah iyo ninka boqorka loo yahay iyo ninka ganiga ah iyo ninka faqiirka ah kulligood isku mid sidoo kale maxaasinta waxa kamid ah xajka in dadku isbaranayaan kan waaba meel la isku bartaba muslimiintu meel ay isku bartaan way midka Afrika yimid midka Asia ka yimid midka Canada ka yimid Australia ka yimid Europe ka yimid halkaas aba muslimiintu way kala war qaadanayaan way isu duceynayaan ahwaashooda ka kala warqamayaan marka maxaasinta xajka lama soo koobi karo run ahaantii laakiin waxaan ku soo koobayaa ilaahi subhanahu wa jalla wa ala cidda aan wali halka tagin oo aan ilaahi uu xukuman hada ka hor inay tagto inuu ilaahi subhanahu wa ta'ala uu siiyo una sakhiro maalintaas ayada waa maalin aad iyo aad u qiimo badan wana maalin zahiy saayid laga qaato watazawwadu fa inna khayra azadi at-taqwa mar labaad waxaan ku wareejinayaa sheekh Abdullah Hanbali taban maxaasinta islaamka lama soo dhameyn karo inaan kelimada yar dheerayna waa suurtagal laakiin bal wixii kale oo ilaahay uu waafajiyay subhanahu wa ta'ala oo maxaasina inuu qodob uu noogu sheego ayaa sheekh wareejinayaa faray tafadal mashkuuran majuuran أحسن الله إليكم intaasi haddaynu uga gudubno ummahaat alcibaadaat iyo arkaantii islaamka meesha ay quruxda iyo bilicda islaamka ay ka yihiin ama islaamka ay shicaar ugu yihiin waxaa kaloo iyadana jirta akhlaaqiyaad iyo mucaamalaad islaamku uu noo jideeyey oo isagana laga dheehanayo quruxdiisa iyo sharaftiisa iyo qiimihiisa مثلا waxaan insha Allah wax yar ka taabanayaa mucaamalaadka waxa weeye ama ha noqoto beeci ama ha noqoto qaabkii la isu guursanayay ama hadii la dagaalamo qaabkii loo kala garbaxayay qaabkii la isu xugminayay qaabkii loo xididayay qaabkii wax loo kala amaahanayay qaabkii wax loo kala daymanayay mucaamalaad kuwaas la yiraahdaa islaamku door weyn buu ka ciyaaray arintaas iyada ah wax shuruudo fara badan iyo qawaaniinna uu u dajiyay macaamilka noocaas oo kala shakina kuma jiro markii laga leexday arintaas iyada ah gaal iyo muslimba hadda muslim iyo qeyrkii baan ka hadlaynaa nidaamka islaamiga ah uu islaamku ama ilaahaygi koonkan abuuray nidaamka in loo macaamilo uu u jideeyay ninkii ka leexdo inuu khasaarayo la shak walihaada hadda ergaas asxaabu rasuulillaah hadii lagu dhila waxa laga yaabaa inaysan aad u fahmi lahayn iyagu fahamka iyo naska diintay aad ugu dhaganaayeen laakiin innaga joognay hadda azmat al-iqtisaad al-aalami hadda annaga joognay azmooyin badanna waa jireen kolba hadda aniga inta ila daadaan ka hadlaya ama hadda inta aan shaahidka u ahay beentii iyo barobagaankii iyo khiyaanadii iyo qishkii iyo qaabkii loo macaamilayay iyo hawadaas oo inta hawadaas wax lagu kala gadanayo meeshay adduunka gaarsiisay maanta gaal iyo muslimba waa marxaati af mugiibayna waxay ku yiraahdeen badbaado ma jirto ilaa nidaamka islaamka loo soo noqdo moogi wad arkayseen oo taasi waa marag madoonto arrimahaasi marka waxay nagu inaynu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u mahad celinno allah diin nooga dhigay diinta noocaas ah qiimaha badan ee quruxda badan ee bilicda san
inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinno marka koobaad, marka labaadna inaynu baranno oo aynu ku fara adeegno diinta iyada ah ayaana looga baahan yahay. maalan hadda beeca ama wax kala gadashada, beec waxaa la yidhaahdaa qofka inuu badeeca meel geeyo oo uu lacag soo qaato. ashiraana waxaa la yidhaahdaa in aad wax gadato adugu intaad lacagta suuqa la timaado inaad wax gadato. nin walba dadku nin walba inta agtaa la moogiyo inta kale ayaa muhiim u ah. hadda waa tan oo lacago adduunka lacagaa laga isticmaalaa iyo warqado oo adduunka waa la casriyey, laakiin waagii hore waxaa laga yaabaa inuu nin jawaan masaga inuu ku gadan jiray jawaan timir ah, ama haddii kale gudub beriisa inuu gudub qamadiya ku gadan jiraa laga yaabaa, oo nin walba wuxuu hayo moogiye waxa kale uu kusoo bedel qaadan jiray. macaamil baa la yidhahdaa middaa iyada ah. ribadii baa la diiday oo waxaa la yidhi qaabkan wax loo kala gadanayo waa inayna noqonin qaab uu ku jiro dulmi iyo xadgudub, ee sidaa cadaalad ku dheehan tahay oo qurux badan ha loo macaamilo. beeca iyo shiraha marka wax kala gadashada waxaa weeye qofka oo wuxuu u baahan yahay la gaarsiiyo. hadda maalan guri baad isaga jirtaa, waxaa laga yaabaa gurigaada intaasoo shay inuu ka kooban yahay. maanta raashinkii aad ku afurtay intaasoo shay inuu yahay laga yaabaa. haddii la dhihi lahaa shay walba meeshii uu ka soo baxay ee uu ka go-ay ha loo raadsado, haddii la yidhaha rafaad fara badan baa la arki lahaa. laakiin dad baa baabuur kusoo qaaday, qaar baa diyaarada lagu soo qaaday, qaar baa maraakiib lagu soo qaaday, intaasoo suuq baa yuu isaga gooshay. kadibna waa la nadaamiyey, dukaamo iyo subermarketyo iyo adduunyaa la sameeyey. qofka intuu tago wuxuu rabuu soo qaadanayaa. marka taasi marka waa fadli iyo taysiir min allahi tabaaraka wa tacaala. qofka marka inuu wixii uu cuni lahaa iyo wixii uu cabbi lahaa iyo wixii uu xidhan lahaa iyo meeshii uu degi lahaa, intaasaa ugu muhiimsan baa la yidhaahdaaye. in ibni aadamku ay ku macaamilaan oo ay waddada cadaaladda ay u maraan, waxaa weeye waa taysiir min allahi tabaaraka wa tacaala iyo garansiin ilaahay addoommadiisa uu garansiiyey waddadii ay ku badbaadi lahaayeen, ay ku jiri lahaayeen, ay kusii socon lahaayeen. taa marka daacadnimo iyo islaamnimo marka macaamalka noocaasa uu u dhaco, beeciina wuu barakoobi, ilaahayna wuu u barakay nin walba wixiisii. haddiise kish iyo dulmi iyo iskadin iyo waxyaabo fara badan la sameeyo, beeciina markaa barakada ilaahay waa ka qaadayaa. haddii adduunkii o dhan waxa weeye dabow duurgal dareemay olol. wixii hadda maalmo dhoweydna soo maray waad garanaysaan. haddaan laga waatoominba muslim iyo kayrkiibana haddana hadda waynu soo noqon. maxaa yeelay shaki male qaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ugu talagalay qaab aan ahayn oo adduunyadu ay ku socon karto male. haddii kale waxaa soo baxaysa dad fara ku tirisoon 100ba ka badnayn oo dadka dhiigooda miirta, oo dadka cunaqabateeya, oo dhididaysuun iyagu ku taajira iyagoo waxba aan qabanaynin oo meelahaas ka xaragoonaya. taasinana shaki male inay cadaalad darro ay tahay, shaki kuma jiro. macaamilada marka noocaas oo kalea islaamku waxaa laga dheehanayaa qaabka uu u jideeyey waa wax hadda gaal iyo muslimba ay ka markhaati kacayaan, muuqdo oo aan qarsoonayn weeye. macaamilka noocaas oo kale ah waa fara badan yahay. mithaalun baan ka bixinaynaa, ma soo koobi karnee. waxaa ka mida beecii, waxaa ka mida ijaarkii in wax la kala kiraysto. hadda maalan nin baa laga yaabaa inuu ka yimaado yurub, inuu qaahiro kusoo muur raba. haddii ilaah baa idinku dhaariya ka warrama lagu kalifila la dhihi lahaa, cidna waxba ku siin maysa, guri meesha ka gado. haddii la dhihi lahaa rafaad bay ahaan lahay. laakiin mid kale oo guri meesha ku leh oo isna laga yaabo gurigii inuu meel tuulaa ka aaday baa waxaa weeye ninka halkaa ka yimid wuxuu oga baahan yahay xoogay shilimo ah, gurigayga cabbaar sii deg iga ijaaro, shilimaha isii weeye. qaabkaasaa marka lagu kala soconaya. shirkadaha qaabkay u mucaamilaan, lacag baa hadda london laga soo diraya, lacag baa maraykanka laga soo diraya, shiinaha loo diraya, soomaaliya loo diraya. intaas bangiyadii iyo nidaamka loo mucaamalayo, kullu haada waxaa weeye waa mucaamalaad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku ilhaamiyey, garansiiyeyna addoommada ilaahay subxaanahu wa tacaala. wakaaladihii iyo kafaaladii iyo isxiriirintii iyo si qaabkii la isu guursanayey iyo qaabkii loo xididayey iyo qaabkii haddii xitaa la isku dhaco la isu furayey ee loo kala tegayey ee loo xaaltamayey, intaba waxa weeye waa wax mid ku tilmaaman kuna suntan islaamka weeye. wain yatafaraqa yugni illahu kula min sicati bilahi subxaanahu wa tacaala leh. labada qof haddii ay xal kala waayaan
oo inay kala tagaan ma ogiye ay noloshii kharaaraato haddii ay iska kala tageen nin walba ilaahay gooni buu ugu filan yahay gabadhana waxaa laga yaabaa nin ka qiimo badan ninkan inay hesho ninkana waxaa laga yaabaa mid tan oga ror inuu hela laga yaabaahay oo marka horeba aysan isku dooq ahayne oo la isku jacburiyey ama ay iyaga lafadooda isku khaldamaane waxa weeye haddii aad isfahmi weysaan nin walba waxa weeye ilaahay dhulkiisa waa weyn yahay ee nin walba dhulkiisa ha aado laakiin nidaamka islaamkuna ha loo maro oo si wanaagsan ha lagu kala tago raggu waxa weeye waxyaaba anu hadda wadaadada dadka ku dhex jiraanahay ceebaha adduunka hadda aan meel aan mararka qaar aad wejiga la foorarin oo aslihi un warkii rag ah dhimay waxa weeye gabadh islaameed baa la soo guursan meher iyo waxaa laga masruuf iyo marashaa laga ballan qaadi gabadhii waa la heshiin waayey gabadha xaqeeda inta la siiyo in banaanka la mariyo oo weliba tamatuc iyo wanaag loogu daray ahayd laakiin waxaad arkaysaa nin weyn oo laga yaabo intuu leeyahay aad yaabayso reerkiisa iyo dadkiisa iyo bulshadiisa qiimo ku leh oo la leeyahay gabadhii waxa weeye meherkeedii baa laga soo saari lahayaa soo ceeb ma aha soo dhibaato ma aha waa dhibaato weyn marka macaamilka noocaas oo kale ama qaabka la isku guursado ha noqoto oo nikaaxa iyo wixii la halmaala ama qaabkii mucaamalaad kale ee beecii iyo ijaarkii iyo waxdii iyo wax wakaaladii iyo qaabkii la isaga naayib noqonay ha noqotee intaba waa in wadadii islaamka loo maro weeye meelahaasna markii intaa loo maro oo wadadii islaamka loo maro waxaa meeshaa ka soo baxaya maxaasinta islaamka iyo sharaftiisa iyo karaamadiisa maanta hadda inagu muslimiin baynu nahay gacantan agoobay gacantan midigta hadday kugu taallo waxaad moodi inay dadkoo dhan inay wax iska caadi tahay baad moodi laakiin ninka aysan midigta ku oolin yaa garanaya gacantan midigta faa'iidada ay leedahay ninka caafimaadka qaba waxaan inay iska caadi yihiin buu moodi laakiin caafimaadka ninka jiran baa garan caafimaadku qiimaha uu leeyahay ninka baahan sidoo kale ninkii xoolo la-aan oo ceyrtooba un baa garanaya baahida iyada marka waxaad meeshaa ka garanaysa annagu muslimiin baynu nahay waxaan waan ku dhalanay waan kusoo barbaarnay waan ognahay laakiin maanta nidaam islaamka qiimihiisa iyo maxaasintiisa iyo bilicdiisa waxaa gartay walaalayaal muslim iyo kayrkiiba ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamkaas oo axdathu adyaan illahi tabaaraka wa tacaala diimaha ilahay midii ugu cusbayd ee ugu yarayd ee gurodambaystahayd ah oo weligeedna soo jiranayd ilaa min ladun aadam islaamkaa un ahayd waxa weeye maxaasintiisa iyo bilicdiisa waxaa laga dheehanayaa macaamilka iyo qaabka loo macaamilayo faraa-isha u fiirso qaabka la isu dhexlayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cidba wakiil uma dirsanin cidna umaba wakiil oogama dhiganin isagaa kala qayqaybiyey oo hadduu qof dhinto mayd ah warasadiisa siday u kala dhaxli lahaayeen isagaa ilaahay subxaanahu wa tacala qur-aankiisa ku sheegay iyo axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam qisaasta oo meelaha gaalada ay islaamka ka soo hujuumaan ah oo islaamkan dadka gacmaha wada goynaya islaamkan gabdhihiina nimankuna 4 bay guursan karaan gabadhiina waxaa weeye gurigeeda ha joogta dhahaya muxuu yahay islaamkan dadka gacanta ka goynaya islaamkan ninkii zinaysta ee xoogay shahwo ay qaadaba le 100 jeer ha lagu dhufto hadduu nikaax xalaal soo marayna dhagaxba ha lagu dilo islaamka dhahaya muxuu yahay meelahaas qofka laga soo galaya ama meelahaas shubahaad laga abuuraya laakiin iyada ilaahay subxaanahu wa tacaala markaad hadaladiisa u fiirsato indha caafimaad qaba iyo faham wanaagsan aad ku fiiriso walakum fil qisaasi xayaatun ya ulil albaab in la isqisaaso oo la isdab saaro oo la is-edbiyo waxa weeye nolol baa ku jirta laakiin yaa garan dadka caqliga saliimka alaha garan dadka wanaagsan baa garan oo waxaaba kaloo iyadana muhiima horta yaa ogol ama raallika in gabadhiisa laga zinaysto ciyaadan billah ama hooyadii xaaskiisa laga zinaysto ama zinadu inay faafto nin walba wuxuu ku leeyahay aniga intayda hay badbaado inta kale aan xoogay bal jiiraya lama ogolo waxaas wax fiicanna ma aha marka waxa weeye dadku waa adigoo kale inta aad dareemaysay dareemayaan zina lama ogolee dadku idab ha yeesheen qaawanaan lama ogolee gabdhuhu ha xijaabteen xatooyo lama ogoleeyaan guryaha islaamka loo dhicin oo aan xoolaha islaamka la biliqaysanin oon dadka jidgooyo loo samaynin intaba waxa weeye waa caqliga saliimka ah keenaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu sameeyey xuduud wuxuu yidhi ninkii waxada oo ilaahay xuduuddiisa tallaaba oo gacantiisan iyo wujuudkiisan iyo intaasuu la egyahay shaqaysan waayo intuu guri islaameed u dhacay wax soo xaday gacanta inta lasoo qabto weliba midda midigtaa kaf hala siiyo islaamku qabaa inta kalea ku edabsanaysa
qawaaniinka wadciga u fiirsan islaamka ahayn ee dawladuhu hadda ay leeyihiin ama meelaha reer galbeedka ha noqdo ama wadamadan islaamka in islaamka ku dhaqmin ha noqdeena u fiirso nin hadda waxa la xadala male nin hadda hal zinaysta lahna male laakiin wuxuu ku leeyahay ninkii waxada waa la xiri waayo hadii la xiro oo soo baxso hadana waxad usmaayo xatooyadii marka ma joogaysa laakiin ninka gacantiisa oo arko oo saa markuu arko gacanta inay maqan tahay haduu waxado idab buu yeelan akhlaaq buu yeelan dadkii baa amni iyo istiqraar iyo nabadgelyo ku noolaanayaan wallahi waad aragteen 6 bilood ee maxaakimtu ay shaqeynayeen Soomaaliya meesha ugu nabadgelyada daran bay ahayd wal gariib meesha ugu amaanka badan bay noqotay ciidamada ma joogin waxa weeye diin fara badan in laga akhrin baa laga yaabaa maadaama la yiri shariicada islaamka la dhaqan gelinaya ninkii waxa sameeyana shariicada islaamka lagu qaadaya dadkii idab bay wada yeesheen الآن meelaha wadamada islaamka meelba meesha islaamku uga dhowdahay shariicada islaamka laga tadbiiqiyay ka amaan badan tahay wax kalena meehe waa haybad ilaahay ba amniga soo dejinaya ilaahay ba maaragtay deganaashaha soo dejinaya ilaahay ba dadkani qalbigooda wanaag iyo sakiina iyo xasilooni gelinaya shariicada islaamku haybad bay leedahay qofkii qof dila hadda u fiirso anigu waxaan aqaanaa qabaa'il Soomaaliyeed oo argos ilaa 25 sano hadda u socdo nin baa beri nin dilay kii kala la dilay kii kala soo waligi tusbax gadaal ka furtay waligeed ba dhamaan mayso asalka nimankan dambe intaysa dhamaan waxay ahayd kii wax dilay inta la soo qaabto in isna dhagta dhiiga loo daro oo halkaas lagu dilay sheekadina halkaas ku dhamaatay oo lagu xidhay yahay laakiin hadii uu la yiraahdo xeer iyo kan iyo geed iyo idinba waagaas aad nin disheen oo cidna magtiidan kama qaadin fasaadkii marka uu sii socdo waligiina joogsan ismaayo dadkuna saasay marka muddo badan ay dhibaatada ku soconaysaa marka qisaasta iyo ninkii nin dilay in loo dilo iyo gacantii waxada in la gooyo iyo ninkii zinaysto in ama haduu dhalinyaro yahayna 100 sheeda lagu dhufto kadibna wada meesha uu joogo laga musaafiriyo haduu nin nikaax ritay yahayna dhagax lagu dilo nolol amni waa dadka ku nabadgeliya dadka intooda kale hadii kale fasaadkii baa badanaya dadkii argagax iyo cabsi iyo amaan darro iyo waxa adduunka ka shaqeynaya wada aragtaa meeshii waxa way marka meel lagu hoydo male meel gaala iyo meel islaam ba hadaan shariicada islaamka la dhaqan gelinin waxa weeye amaan darro ma horeyso weeye wasaariqu ilaahi wuxuu wasaariqu wasaariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu azizun hakim ilaahi wa Allah la isku taagi karin oo adoomadiisa dirqiya kana adag kana sareeyo weeye hakiimna weeye waxa uu sameeyay xigmad buu ka leeyahay ninkii waxada ama rag ha noqdo ama gabadhii waxaad dumar haday tahay gacanta hal labada gacmood hal la gooyaa la yiri ilaahay baa saas yiri waxayna abaal iyo u tahay dhibaatada ay kasbadeen xoolaha ay xadeen ha fiirini fiqi inkastoo fiqiga lafsadiisa waxa la xaday rubcu inay rubac iyo yaani xilli in muayanaha inay hadii ninkii u kun xaday hadda waxa laga yaabaa inaan gacanta laga gooynin laakiin ninkii ma waxa uu xaday inta gaaraan ayuu fiqigu qabaa laakiin waxa weeye waxa uu xaday ha fiirinina gurigan islaameed uu soo dhacay fiiri dadkan uu jidgooyada ku sameeyay fiiri baabuurtan bicmushirkee uu jidka u galay fiiri nabadgelyo la'aantan uu sababay fiiri dadkan uu argagixiyay ee wadnahoodii barnaanka yimid fiiri waxa soo dhan marka la fiiriyo waxa weeye ninka inta la soo qabto in gacantiisa jaf laga siiyo weeye ilaahay baana saa xugmiyay oo bitaali hadal kama furna maxaasinta islaamka waxa kamid ah walaalayaal ilaahay in la tashado ama hadii wadan la yahay hada Soomaaliya oo kale ama wadan muslimiin la yahay wadan la degan yahay muslimiintu inay tashadaan ilaahay waa kan ilaahay wuxuu leeyahay wa amruhum shura baynahum inuu nin walba intuu wax iskala boodo go'aan oo san dadka ku dul akhrinin dadkan wadanka kula degan ee walaalaha ah ee dantu idin ka dhaxayso ee meesha aad ku wada tukan lahaydeen inaad ka wada tashataan loo baahan yahay caruurta saa diinta u baran lahaydeen inaad ka wada hadashaan loo baahan yahay go'aan kaliya ha iska qaadan ana iska ordine walaalaha la tasho oo wa amruhum shura baynahum alladina istajabu li rabbihim wa aqamu salata wa amruhum shura ayat kale wa shawirhum fil amri ilahi subhanahu wa ta'ala nabi muhammad sallallahu alayhi la tasho asxaabta cidii marka nabi muhammad raacsanna in ay dadka walaalaheeda la tashataa loo baahan shuuradu marka waa min maxaasin islaam shuuradu iyadoo oo aanan la dhihin gabdhuuna ha isguursadeen raguna ha isguursadeen eyga iyo dadkuna waa isku xuquuq iyadoo la dhino la xad gudbin in la yiraahdo warseen u noolaana
ee shareecada islaamkana aan ugu noolaana in laga wada tashado waa lagama maarmaan. maxaasinta islaamka waxaa ka mid on kusoo gabagabaynayaa qabyaaladu ka hortegay, casabiyadu ka hortegay. ina akramakum cinda allahi atqaakum, waxaa idinkugu qiimo badan oo idinkugu gobsan, idinkuguna ugaasan, idinkuguna dun wanaagsan, mid walba midku ka cabsi badan yahay. ee saad u egtihiin qabiilkaad ka soo jeedaanna ma aha, saad u kala lacag badan tihiinna ma aha, saad u kala laandheeraysan tihiinna ma aha. arrinkaas ilaahay waa qararay, ina akramakum cinda allahi atqaakum. maxaasinta islaamka sheekha iga horreeyey waas ay qorneed aniga, wactasimuu bixablillahi jamiica. midnimada in midnimada lagu dadaalo, tafaraaruqana laga fogaado, ilaahay maxaasinta islaamka weeye. maxaasinta yadullahi maca aljamaaca, yadullahi fawqa aljamaaca, wactasimuu bixablillahi jamiica walaa tafaraquu. taasi sheekha hadda ka hadlay ku noqon maayo. maxaasinta islaamka waxaa ka mid a cadaaladda. dircu caliyin yahuudi baa islaamka kusoo galay siday qisadu ay sheegayso. khamiiskii cali baa nin yahuud ahoo xidhan unbuu arkay oo wato, war khamiiskan waa khamiiskaygiiyo ii dhig, iyo kuu dhigi maayo anigaa iskale. nabigaa loo wada xugun tegey, waxaa la yidhi cali wuxuu yidhi khamiiskan anaa iskale, yahuudigiina wuxuu yidhi anaa iskale. nebi moxamed ma dhihin yahuudi weeye, waxna ka dhagaysan mayne gaal dhalay weeye. war ninka saxaabiga ahee weliba nabiga ay qaraabada yihiin soddogor uu yahay dirac khamiiska usib lama dhihin. waxaa la yidhi caliyow khamiiska inaad adigu leedahay markhaati keen. xasan iyo xuseen buu keenay sida ay qisadu sheegto. markhaati kuuma galaan baa la yidhi, waalid baad u tahay, bayina lagaaga baahan yahay. albayinatu cala almudyamiinu calaa man ankar. qofka wax sheeganayana caddayn baa laga rabaa. qofka wax lagu sheeganaya hadduu qofkan wax sheeganaya hadduu caddayntii waayana ka wax lagu sheeganayana markaa wuu dhaaranayaa. waxaa la yidhi haddaad markhaati kala weydo, anigu markhaati kale ma hayuu yidhi ilahay rasuulkiisa iyoona xasan iyo xuseen ahayn. haddaad markhaati kala weydo yahuudigaa dhaaran. yahuudkii marka waa sidii buu marka islaamka kusoo galay oo uu ilaahay subxaana wa tacala cadaaladda islaamka iyo maxaasintiisa markuu arkay, cadaaladaasaa marka ka mid ah. qaadiga fiiri, ninka islaamka waxa uu og yahay ee isaga si kale kusoo gaarayn waxba kuma xukmin karo. wixiisu waa inay noqotaa bayina iyo caddayn iyo markhaati cad waa inuu noqdaa. waxaa la yidhi ninka wax xukminayo shuruud lqaadi waa inuu qaadigu yahay ninkan wax u xukminaya qaraabanimo iyo saaxiibnimo iyo shirkanimo iyo maslaxo waa inaysan ugu jirin waxaan uu xukminayo. bal cadaaladda islaamka marka u fiirso, cafwiga iyo isisaamixitaanka maxaasinta islaamka ayay ka mid tahay. wa an tacfuu aqrabu litaqwa walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum. iscafiyo isisaamaxa oo waxa weeye ilaahay idinba sooma jecelidin inuu ilahay idin dambi dhaafo. dadka marka u dambi dhaafa oo dembiga qofkii adoo arka inuu dembi kaa galay sooma jecelid adiguba dembi aad gashay, ilaahaygii ku abuurtayna aad ka gashay inuu kuu dhaafo sooma jecelid. ha adna walaalkaadan kugu khaldamay iska cafiyo u dhaaf. maxaasinta islaamkay ka mid tahay alislaaxu bayna daati lbayn, dadka isku dhibaataysan ee isqoomay in la kala furdaamiyo oo heshiis dhexdooda la dhigana maxaasinta islaamka ayay ka mid tahay. in wax la sugto oo aan wax lala ordin, oo haddii aad wax maqasho in yacni wixii aad iska sugto oo aad tidhahdo war hebelow maxaa daliil u ah, in jaa-akum faasiqun binaba'in fatabayanuu. maxaasinta islaamkay ka mid tahay. qof walba inaana wuxuu sheegay lala ordine, sugnaan iyo waxaa loo baahan yahay in wax la caddaysto. waxaa maxaasinta islaamka ka mid a inaad ninka walaalkaa u turto, dhan kasta inaad oga turto. taasaana kusoo gabagabaynayaa, inaad dhan kasta oga turto. oo qofkan shubha ayaa ku abuurmi karta, qofkan qabiil baa qaadi kara, qofkan maslaxo kale iyo ta'wiil iyo intuu wax isagoo meelaha kasoo qiildaydo ayuu waxaan u arki karaa wax fiican. marka in la isu dhimriyo, la isu turo, oo aan la iskula maaragtaynin, oon la istabdiicinin, oon la istafsiiqin yani aanan xerada la iska saarin ayaa loo baahan yahay. nabigeenni maxameda u fiirso, maalmaha ka mid isagoo ictikaafaya oo masaajidka ku jira ayaa waxaa u timid xaaskiisii Safiya. markaasuu nabiga markay u timid oo masaajidka ugu timid ayuu xoogay sii dhaweeyey oo banaan guri ilaa albaabka masaajidku la gaaray. laba nin oo reer ansaarah nabiga u timid calayhi salaatu wasalaam. markaasuu wuxuu yidhi calaa rislikuma, istartiibiya oo isdejiya, inamaa hiya Safiya, haweenaydu waa Safiya, waa xaaskaygiiye istartiibiya. asxaabtii waxay yidhahdeen subxaana allah, maadaan kaa shakinayna ilahay rasuulkiisiiyo. nabigu sala allahu calayhi wasalam hadal waaray oo isaga uu isku tusaaleeyey buu yidhi oo ilaa yowmina haadaa dhaxal galay. wuxuuna yidhi rasuulku salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi, ina ashayطaana layajrii min ibni aadam majra dam. shayطaanku xowlmariidyada iyo xididada dhiigga ay qaadaan halkaasuu xaluushaa.
oo si kaloo wax kuu fahansiin si khaldan buu wax kuugu sheegi marka qofka inuu yidhaahdo innahaa safiya uu yidhaahdo uu isberi yeelo oo uu walaalkiisa shuhubada iyo fahamka xun ee ku dhalan kara uu oga digo oo oga turo maxaasinta islaamka ayay iyaduna ka mid tahay intaasaan anigu walaalayaal kusoo gabagabay maxamuud waxaan leeyahay ayadana xagga akhlaaqiyaadka iyo khitaamkii insha allahu tacaala waa khitaamuhu miskuna oga dhig inaad iyadana wixii maxaasinta islaamka saad sheegtay lama soo koobi karo aad bay u fara badan yihiin inuu bal marka sheekhu noo soo khatimo oo weliba dhanka akhlaaqda oo iyadana aad u qiimo badan maxaasinta islaamka in wixii uu naga dhihi karo uu naga dhaho falyatafadal mashkuura bismi illah waqti dambe ayay noo tahay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaanan wax badan ku darin akhlaaqiyaadka oo markii laga hadlayo iyo xiriir ka dhexeeya maxaasintu aad buu fara badan yihiin waxaa ka mid ah xiriirka ka dhexeeya waalidka iyo waladka waxaa ka mid ah xiriirka ka dhexeeya dariska waxaa ka mid a ninka iyo xaaska isqaba waxaa ka mid a aad iyo aad bay u fara badan yihiin xagga akhlaaqiyaadka waxaad inay u baahan tahay waqti intaa ka muhiimsan ama ka fiican ama dee culimo kale un insha allahu tacaala waqti munaasaba inaad u ballansataan marka maadaama hadda annaga kowdii habeennimo iyo barkiiba iyo weliba ziyaada ayay 12 miya 12 iyo barkii bay noo sii tahay marka dabcan odayaalla waana had garanaysaan oo taas waa iska fahmi kartaan insha allah marka intaas aan iskaga gabagabayno jazaakum allahu khayran walaaluhu 3 su-aalood baan su-aalaan haynaabay dheen markaana waxaan ku yidhi 3 su-aalood ha ka badinin insha allahu tacala hadii la yidhahdo marka kusoo dhow abu hurayra tafadal baaraka allah fiik السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عد مجد أحباب في الله جزاه الله خير جزاك الله خير الجزاء علماء الشيخ عبد الله حنبلي يا شيخ محمد الشيخ حسن أبو ضلحة الله سبحانه وتعالى ميزان حسناتك يوم القيامة هيدين صاره وناقة إسلام قياد نوغشة كيسين أنا الله سبحانه وتعالى نقدر يكون أفحق قاطة كون رقمة شيخنا فاضل كل واحد فينا شيخ حنفي إنه سؤالها قريب وهيو إن شاء الله أنا هل سؤاله ما إن شاء الله كسر قوي لا يلح سؤاله دي سو قاري أو كسر بسن موضوعه آدي مهم أنا وأركه شيخنا سائلكم وحليه هاي ونادي الإسلام كشيخه أنه الإسلام بنوارقنا ووحن الدين تنا نقاضنا الله سبحانه وتعالى أنه وهديه لكن ما أنت هذا الأركتيد dadk cadaanka ama dadka muslimiinta ahayn wanaag islaam ma tusi kartid oo waxa weeye waxa la leeyahay bil walba dhaca iyo qarax walba dhaca iyo wax walba xumaan adduunka la sameeyo islaam ba muxuu ahaayay dabada ku haya ayaa la leeyahay marka sidee ayaa loo tusi karaa ummadda noocaas oo nacam maanta aad arkaysid meel walba hawartii yar oo la tuquntuqyada islaam miya tuuray baa lagu leeyahay marka sidee baa looga bixi karaa arrintaas oo loo oran karaa nacam loo tusi karaa ummadda kale adduunka in islaamku aanu waxaan aanu ka mas'uul ahayn ee tahay shakhsiyaadka qaarkood ee islaamka sheeganaya su'aashaas ayaan sheekhana faadilan u arkay inay muhiim tahay kuna saabsan tahay wanaagga islaamka iyo sida adduunka loo tusi lahaa falyatafadal sheekhana alfaadil mashkuuran horta waa masale muqadimo dheer leh in maanta muslimiinta la gaadhsiiyo wixii xumaan oo dhan loo tiiriyo horta waa masale muqadimo dheer lahoo hordhac dheer bay lahayd oo hadda ka sheekaynteedu waqti dheer bay u baahan tahay waqtigii dowladda islaam ay dhacday kufriga iyo gaalnimadu ay xoogeysteen calmanada iyo cilmaaniyiinta iyo shuuciyiinta iyo dimuqraadiyiinta iyo mulxidiinta iyo kulli ay soo wada ayagoo sidii riti qooqan ay banaanka usoo wada baxeen goorta luqada carabiga lala dagaalamay goorta faslu diin can idawla faslu diin can isiyaasa marka la kala saaray dowladda iyo siyaasaddii la kala saaray maa lilahi lilahi wamaa liqaysar liqaysar la yidhi maxaa la yidhaahdaa waxaasoo dhan muqadimadaa dheer ee aadka u fara badan bay ahayd xataa lahjaadkan la sameeyada arkaysa ee lahja suuriya lahja ciraaqiya lahja masriya soomaaliya suudaniya waa arrin dabada la yidhaahdaa mukhaabaraadka iyo in shaksigan la fahmo oo dadka waa isku midaba waa isku kalare si loo kala fahmo bay dabada marka horta muqadimaad dheer bay lahayd oo islaamka lala soo dagaalamay hase ahaatee
waxaan ka fiirinaynaa masalada laba dhinac. dhinac waxaan ka fiirinaynaa insaafka iyo cadaaladda, dhinacna waxaan ka fiirinaynaa meediyaha iyo buunbuuninta maanta cidda gacanta ku haysa. cidda meesha saddexaadna waxaan ka fiirinaynaa manduur sharci ah. saddexdaasaan kolba sheekha ka midi doona saan rajaynayo. horta manduurka sharciga markaan ku fiirino, qofka muslimka waa qof saadiqa, qofka muslimka waa qof runsheega, qofka muslimka waa qof ballanka ilaaliya, qofka muslimka waa qof cahdiga ilaaliya, qofka muslimka waa qof lagu yaqaano wanaag oo dhan lagu yaqaano. saasaana Afriqiya lagu furtay, saasaana dadku ay ku soo galeen diinta islaamka. dadka diinta islaamka inta ku soo gashay maxaa la dagaal iyo inta ku soo gashay tijaaradii iyo mucaamaladii sheekh hadda uu ka waramayay akhlaaqiyaadka aanu waqti bay u baahan tahay oo ay noqoto xagga beeca iyo shirada iyo amaanada iyo ay ahayd. horta qodob bay ahayd oo muslimiinta qimma waa masalada ugu sarreysa ay horta muslimiintu ay ahaan jireen. taasi waa manduurka sharciga ah. ilaha yimidna waa inay noqdaan ducaad ila allah, waa inay dadka sabab ugu noqdaan inay diinka ay ku soo dhawaadaan, waa inayna sabab u noqonin in ay diinka dadka ay ka caydhiyaan. ma ballan soo afrikaan baan kuu dhigaa waa kuwa soomaalidu dhahdo, mise ballan kale ayaan kuu dhigaa. ilaa halkaas ayay gaadhay. dhakhaatiirtii baa calaacalayso oo leh maxaa la yidhahdaa wuu soo daahay, maxaa la yidhahdaa qofkii maxaa ku dhacay. marka qof been iyo khayaano iyo isdabamarin iyo sabareed iyo maxaa la yidhahdaa ilma si ku dhasha iyo waxan oo dhan aad arkaysaan. waxaa weeye dad fara badan baa qiyaamo maxkamad saaran oo su-aalo badan la weydiin doonaa. oo islaamka mataqaanaa qofka maxaa la yidhahdaa kuwa mushrifka iyo qofka macalinka kuwa iyo midka socialka kuwa iyo midka aad meel ka wada shaqaysaan inaad saadiq noqoto ood ilaahay u run sheegto ayaa horta lagaa doonaya. waa masalada asalkeeda wey. masalada labaad, meediyaha iyo iclaamka, tv-ga, telefisyoonka, jaraa-idka. maanta cidda lacag le waa la yaqaanaa ee waxaan dhisatay waa maraykan iyo yuhuud iyo cidda la halmaasho weeye. saa daraaddeed bay adduunka oo dhanna qaryo yar intuu noqday ayaa kolba sidii la doono loo tawjiihinayaa. marka waa tashwiishka islaamka lagu furayo qayb kamida weeye. masaakiin fara badan baa marka rumaysan maa qiila cala almimbari fawma xaq bay dheheen. yacni wixii mimbarka laga sheego dad baa caamada agtooda xaq unbuu ka yahay. maanta dad baa haddii qur-aan lagu aqriyo xoogaa madaxa gilgili, haddii la dhaho america saas tirina madaxa lulaya. arrinta noocaasa waa haymana, waxa weeyaan waa isticmaar, waa ghazwatulfikri, maskaxda lagaaga soo duulay. horta waa inaanu xor noqono. sheekh islaam ibnu taymiya kitaabkiisa alcubuudiya wuxuu ku leeyahay maxbuus lama dhaho buu yidhi qofka xabsiga ku jira iyo qalbiga ka nool. xabsi waxaa la yidhahdaa qofka suuqa lugeynaya ee qalbiga ka dhinsan. muslimiintu marka iyagaa la doonayaa horta inay waxan ka baxaan. taas waa mid wey, waa qodobka labaad wey. qodobka saddexaad waa qodob cadaaladda ka fog wey. nimankan reer gaale eenu la joognay ee hadda caalamka haysta, oklahoma ayaa qarxiyey. haddaba waxaa la yidhi war maydkee ugu dambeeyey baa la yidhi sooma, kii hadda lasii wada ugu dambeeyey sooma. norway maxaa ka dhacay maalintii dhawey ama soo dhaweeye. norway arrintii ka dhacday ma islaam baa sameeyey, ma muslimiin baa sameeyey? meeqa ayaa ku dhimatay? ma iyagaa qarxiyey? ma iyagaa jasiiradda ugu tegay oo mataqaanaa weliba kaalee yidhi anaa war idin siin oo xabadaha ku furay? horta warka ayaa keenay. taasina waa midda kale. inta wax la qarxiyo boqolkiiba intaa waxaa weeyaan waa ahi baa ku jirta. oklahoma baan ka soo qaaday. midda kale dadka hadda meesha ku jira dad badan baa laga inay Britania joogaan. hadda Britania ama Britania aan dhihine ingiriiska tuulooyinkiisa dhimashada ka dhacaysa iyo waxa ka socday ma islaam baa ka dambeey? fawdada ma islaam baa ka dambeey? ma muslimiin baa ka dambeey? waxaan marka waxaa weeyaan waa wax muslimiinta la doonaya in ay fahmaan. marka risaalana waa tii hore, buunbuunintuna waa qodobkii labaad, xaqiiqadii cadaaladda laga fogeena waa qodobka saddexaad. in kaana hunaaka tatima baa sheekhaa ku daraya, gacanta ayuu ka taagay. marka intaas ayaa ii muuqanaysa. wallahu aclam walcilmu cinda allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وأهلا أهلا 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 وسهلا وسلام يا علماء، جزاكم الله خيرا
حياكم الله طبتم وطاب جمعكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم aad baan idiin salaamayaa labada sheekh oo xaggaas iyo masar ka soo galaysa sidoo kale shacabkana waan salaamayaa walaalaha halkan i dhegeysanaya waa aad baan ugu faraxsanahay inaan maqlo sheekh Abu Dalha oo saaxiibkeen ahaa iyo sheekha kale oo nagu jira booskii sheekheeni Umar Faruq sheekha oo adeerku waa Hanbali ma sha Allah alxamdulillahi rabbil alamin soo dhawaada ilaahay subxaanahu wa tacaala hanoo keena xifdiyo waxaan idinkaga mahad celinaynaa qaabka iyo farsamada cusub oo isnasinta ah reer magaalnimada ah isku naso yaa sheekh Umar ma sha Allah iyo baashiyo aan laga daalayn ilaa beri dambe haddaad wadaan saddexda maalmood soo socota haddaad wadaan idinka daalimayno sababtoo ah daqiiqada kadib ba waxaa noo imaanaya cod cusub iyo barnaamij cusub ma sha Allah khayr Allah idin siiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ana idin xifdiyo intaas gadaal su'aal waxaa jirtay 4 bilood aan hayay 3 bilood baan hayay ma aqaan oo aan u hayay Abu Dalha qofkii su'aasha lahaana qolka waa joogaa sheekh Hanbalina waa ku darsan doonaa waan rajaynayaa insha Allah tacaala ayaan ii weydiiyo waxaan ku yiraahdaa sheekhi aad iigu soo gudbisay markuu yimaadaan ku weydiinaya caaw luuq iyo sugal cure xanafiyo sheekh hadda waa joogaa hada Abu Dalha aan ilaa ayaantii ma fiirsanaysa sheekha cajiib sheekhuna ilaahay subxaanahu wa tacaala idin xifdiyo su'aashan waxay leedahay waxay ku saabsan tahay jacaylka ama guurka ayay ku saabsan tahay marka saa'ilkan wuxuu leeyahay waxaan maqlay xadiis oranaya labada isjecel labada ismehersanaysa labada isguursanaysa ma arkinin jacaylka isu qabaan cid isu qabta jacaylka ay isu qabaan cid isu qabta marka xadiiskaas wuxuu leeyahay wali wuxuu tusinayaa in uusan dhicinin meher inuusan dhicinin meher laakiin rasuulku haddana wuxuu ishaarayaa labadaas qof jacaylka isu qabaan in uu weyn yahay aayadda qur-aanka ana waxay leedahay wajacala baynakum mawaddatan waraxma sideebaa laysku waafajinayaa sideebaa laysku waafajinayaa intii haddan lahaa hadlahayay baa su-aal degdega iistimidoo gabar baa waxay leedahay jacayl baa haye maxaan ku daaweeyaa wiil baan isguursanaynaa marka hadda taasna wiilka guursa haddaad oranaysaan iyo hawsha soo dedejiya haddaad leedihiin insha allahu tacala adinkaan idiin dayn doonaa insha allah xadiiska ku celi xadiisku wuxuu ahaa buu leeyahay labada isguursanaysa jacaylka isu qabaan waa xadiiskii waxaan rajaynayaa ibnu Cabbaas cid isu qabta labada isguursanaya jacaylka isu qabaan cid isu qabta ma jirkii waxaan rajaynayaa inuu ahaa gabadhii wiilka jeclayd oo reerkoodu ay rabeen wiil kale inay ku daraan saas oo kale oo maaragtay wiilkuna uusan waxba haysanin haye insha allahu tacaala waa yahay marka falyatafadal mashkuuran waa idinku soo dhaweynayaa asalaamu calaykum bismi illah shalay baa waxaan wada hadal wuxuu igu yidhi muxaadaraan rabnaa waxaan ku idhi mawduuceed rabtaan inaan ka hadallo wuxuu yidhi mawduucii qoysaska ku saabsanaa waxaan ku yidhi ramadaan iyo abaaraa jira ramadaanna waa lagu jiraa abaarana way jiraan marka wuxuun abaaro iyo mawduuca iyo ramadaan ku saabsana intaan kuwaa ka hadallo bal wixii qoysas ku saabsan bacda ramadaan nooga dhiga saa daraaddeed horta waxaan dhihi lahaa qofkii 4 bilood sugayey bil kale ha ku darsado 4 bilood 5 bilood ha iska sii qatanaado insha allahu tacaala hadii la yidhaahdo waagu ramadaan uu noo dhammaadaan jacayl ka sheekayn doonaa hadda jacayl moo ka sheekayn karnaba jacaylka hootana loo diidan yahay soomaa bisha ramadaan baa lagu jiraa saasaan dhihi lahaa insha allahu tacaala hadii la yidhaahdo markaasaan axaadiidta iyo aayadaha iyo see la isu waafajinaya maba iska hor imaanayaane
bal xadiidkaana soo yar sax oo lafdigiisa soo aqriya waagaad lafdigiisa soo aqridaan aayad waan bahaynaa waa aayadda 12aad ee suurat ruum korkaa maka haya aayadda xataa raqamkeede bal xadiidka raqamkiisa oo raqameeya iyo cidda warisay kadibna xadiidkii aayaddaasa markaas insha allah iska hor imaan mahayaan waxaan aad u rajayn lahaa insha allahu tacaala annaga suxuurta waa noo soo dhow cidduu jacayl hayo jacaylkeeda iska hayso ilaa bisha ramadaan uu ka dhamaado markaasaan jacaylka sheegayn doonaa wa jazaakum allahu khayran waana nafasixi doontaan وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله waayahay ilaahay subxaana watacaala haydan xifdiyo dembigeynana ilaahay subxaana watacaala haydan dhaafo iyo dembiga waalidkiinba waan idin fasaxaynaa laakiin intaanan idin fasaxinin maadaama su-aashii jacaylka aada nagu celiseen mid kale aan ku bedelaynaa oo soonka ku saabsan mid kale oo soonka ku saabsan baan idinkugu bedelaynaa insha allahu tacaala hal iyo hal baan siinayaa sheekh abudalxana xabad sheekh xambalina insha allahu tacaala xabad ilaahay subxana watacala haydan xifdiyo kadibna waa idin fasaxaynaa idin ilaahay su-aashan hore waxay leedahay waxaa jirta gabar hooyo ayeeye u tahay wiilkeedaa dhalay ninka qaba waysada ma ka jabiyaa ninka qaba waysada ma ka jabiyaa waxay leedahay aan kusoo celiyo gabar hooyo ayeeye u tahay waa hooyo ayaa ayeeye u ah nin qaba wayso ma ka jabiyaa su-aasha labaad waxay tahay waa soonka su-aal ayaan ku weydiinayaa maalinta adiga oo sooman ma la qubaysan karaa ma sugtan waaba waxayd leedahay waysadana sanka biyaha ma lagu mayri karaa waysada biyaha sanka ma la gaarsiin karaayo ma la sandaarsan karaa bay ka wadaa ma la sandaarsan karaa insha allahu tacaala jazakum allahu khayran falyatafadal mashkuuran soo qabsada hal mar in xabad iyo xabad kadibna waad saxantihiin ilaahay noo ken xifdiyo horta su-aasha ramadaanka waan fahmnay aniga sheekhaba laakiin su-aasha kale maana fahmin marka waad kusii celin doontaan insha allahu tacaala markii aad hadda aad maygaan dhigno insha allahu waxbaa wayse jebinaya laakiin waa taas dib oo kusoo noqon maalinta ramadaanka waa la qabaysan karaa qabayskuna kuma jiro maxaa la yidhahdaa waxyaalaha waysada jebiya keliya qofku wuxuu iska ilaalinayaa manaafidda uu qofku leeyahay oo afka oo inta badan maxaa la yidhahdaa caloosha iyo ay wax ka gaadhaan iyo sanka oo maskaxda dhinaca ay ka gaadhaan oo gadaal ugu soo noqon karaan in maxaa la yidhahdaa iikan ay biyuhu ay halkaa gaadhaan unbuu iska ilaalin laakiin xataa hadday biyuhu dhagaha ka galaan hadday indhaha ka galaan wax dhibaato a male insha allahu tacaala khulaasada su-aasha waxaa weye nacam waa la qabaysan karaa wuuna iska ilaalinayaa inay biyuhu ay kas u galaan sandaarkuna waa inuusan dhaafin ilaa an takuna saa'iman waa kuu nabigu sal ly sl sandaarsan kartaa laakiin inaad ku xeel dheeraato lama ogolo ramadaanka maxaa yeelay waa manaafidda maxaa la yidhahdaa gelaysa ama maskaxda ama caloosha gelaysa marka su-aasha waan fahmnay insha allah waana kuu banaan tahay wax dhibaato a male ta kala kusoo noqo bal sheekhana asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuhu su-aasha labaad waxa weeye waysada jebinteeda ayay ku saabsan tahay marka waxay leedahay gabadha wiilka qaba maamada gabadhay ayeeyada u tahay maamada gabadhay ayeeyada u tahay wiilka qaba waysada ma ka jabiyaa maamadu gabadhay ayeeyada u tahay wiilka qaba waysada ma ka jabiyaa ahay waa hooyo gabaday ayeeye u tahay ninka qaba waad fahantay soomaa sheikuna mase waan sii faahfaahiyaa walaalaha su-aalaha iisoo diray su-aalaha waa joojinay su-aala ma jiran marka joojallada ad iisoo diraysaan ilahi subana wataala idin xifdiyo sheekh abdulxa waad fahanteen soo maaha hay fadal insha allah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شيخ أبو حنيفة سؤاشا أييو
ayeeyo gabadhii ay ayeeyada u ahayd wiilka qaba wayse ma ka jabiyaa su-aashu waa saas soo maaha soo sidaa maaha su-aashu ahay horta marka koobaad islaam wayse ma jabiso cala al asax dadka kale ajnabiga ah inay istaabtaan waa xaaraam oo sideeday dembi u tahay laakiin madhabu ahli lxadiid iyo sida xujada ku cad masaladu waa masale khilaafi ah oo madhabkeenan qiimaha badan ee imaamu shaafici baa wuxuu qabaa in ay labada qof ee isqabta ninkii naagta isqaba hadday istaabtaan ay salaadda ay iska jebinayaan laakiin adilada uu ku qotomo iyo markii la fiiriyey waa laga xoog badan yahay madaahibta qaar waxaa jirta tiri haddii yacni taabasho un caadi ahoo wax ka badan ay meesha ka dhacaan oo shahwadii iyo meesha ay kacdo ayay masaa'il madaahibta qaar ay sheegeen laakiin asalku nin iyo naag istaabtay dee nin iyo naag kale ajnabi ahna inay istaabtaan maaha hadday istaabtaanna waysadu ma jabayso sidaasaa aniga ila rajaxan wallahu aclam amaa haddii xitaa la qaato madhabkeena shaaficiga oo gabadhii haddii ay nin iyo gabadh istaabtaan ay salaada ay jebinayso haddee gabadha iyo wiilka ayeeyadaas iyo wiilka ajnabi ma kala ahaa oo calaa madhabihimna haddaan qaadanaba aan qadarnaba yacni inay labada qof ee kale ajnabiga ay wayse iska jebinayaan haddii ajnabi kamuu aho waa gabadhii ayeeyada u ahayd buu wiilkani guursaday fiqigii haddee ma aqaan dadka meesha ku jira sidii fiqigii shaaficiga loo soo akristay aslanba qaabkan waysada la ysaga jebinayay xitaa madhabkeena imaamu shaafici waa dadkaan isguursan karin wey dadkaan isguursan karin dadkaan isguursan karin wayse ma kala jebiyaan waa yaraha bahbahday baan u malaynayaa yaan la isu dhawaanin oo ragga dadka ajnabi kale ha kala fogaadeen haddiise ay dhacdan la istaabto wayse jabi maysa insha allahu tacaala haddaadse u wadada qaabkaasi fukahada tiri waa khilaafka gelisay oo qolyahaas mukhaalifiintaaba warkooda hadda la raaco hooyo ayeeyadaasi waa hooyo oo kale booska hooyada joogta wallahu aclam wajazakum allahu khayra السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي سبحانه وتعالى علماء هيد بركيه دنبجينا يدنبج والدكين إلهي سبحانه وتعالى هدافه عمرجينا عملكينا عقلجينا عربتينا عرورتينا عائلتينا عاقبتينا عدودينا إلهي سبحانه وتعالى عايمي انتبه إلهي سبحانه وتعالى sidaad khayrkii dacwada aad ugu shaqaynaysaan ilaahi subxaana wa tacaala abaalkiina iyo booskiina iyo makaankiina ha ka dhigo jannat lfirdows lacla waxaan rajaynaynaa sheekh abudalxa iyo xambali tobanka dambe rabadaan araggu waa yaraanayaa laakiin tobankan dhexe oo rabadaanka inaad insha allahu tacaala bal aad maaragtayna soo booqataan oo waqti aadna siisaan walaalo idin jecel oo idin baahan oo khayrka u baahan oo badan ayaa jooga oo weliba telefoonada lagu xiraa oo laga yaabo in dhowr kun oo qof oo kale hadda idin dhegaysanayso walow aanan hadda aysan ii sheeginin laakiin hameen kasta kolley xilliyadan oo kale america conferenciga oo toos loogu xiro toos loogu dhegaysto iyo qolal kale marka bal tobankan dambe oo dhexey noo bilaabmay inaad insha allahu tacaala sidaan oo kale weliba adinku aada mawaadiicda aada maaragtaan aada noo soo qorshaysaan aad bay u fiicnaan lahayd insha allahu tacaala ilaahayna ducada haanii aqbalo aan idin ducaynay baasha hadda waxay ku fiican tahay isdhaafse waan idin ducayne ya dad badan baa waxay soo qorhayaan culummada ha noo duceeyeen weliba dadka reer baaltog baasha waa jecel yihiin in loo duceeyo baasha aad bay u jecel yihiin dadka meelaha yimaada marka insha allahu tacaala haddaad awoodaan insha allahu tacaala soo qabsada
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته oo maartay adunkuna nagu tuura saxuurtii baa u joogta afsaxayna marka culimada oo afsaxantihiin booskooda anaga u gali doona ana idin gali doona booskiina ana wakiil idin ka noqonahay insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala idin xifdiyo aywa waaya insha Allah ta'ala hay anaga gilgilaya insha Allah ta'ala ilaahay subhanahu wa ta'ala hanoo barakeeyo waqtigeena aan uga faa'iideysanay sheekhu muxuu yahay kilkil sheekh mikrofoonka min ku dhiba sheekhan Abu Dalha iyo sheekh Hanbali